السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وروان سلام يا حك حساسي أنا واندين وضع بلشة قارئة الصومالية وذا جوبني مدون كه جبتها هاي الله سهلة. هذه أدبان دين سلام يا جب الله نعاو وقبت أصلا كسلام يا الله سهلة. يجي سينما ده يورعني ماذا صوبتا بقولك سوغار بردعاوة بقولك سوغار يراها أورورية آدي آد أيان إذن كحيسا قبا رنتي عاوينكي كالوي كدو انتهي نحرك الربطة جبلان بانكهد ليا عاوة إيا أراكتدا آنو عن كقبا شخصي آنا هاي أما إيكا قبان دادك وسوها الجمي waddankaasi ama gobolka Jubbaland la yiraahdo waa dhiig iyo dhuux ayaa u soo daatay sheekadu iyo sartuba koobta ee ka quruntay ayaan caawa banaanka keenaya haddaba alla sahle maroodigu takarta saaran ma arko laakiin takarta maroodiga kala saaran ayuu arkaa caano ka dhan ayaan ka maqli jiray ku yaro dhaantayn jiray caano ka dhan caawa halgama saxana ku haya alla sahle xaqiiqadu waxay tahayna banaankan keenayna kuwa facebooka iyo baraha bulshada la wareegaya sawirka axmaar ku dhalay melele ku dhalay eenu naqaano alla sahle iyo ragii qalbi dhagax iibsaday nabar iyo naxdin iyo kuwii afka murjinka alaha alla sahle cadowgii ilaahay iyo cadowgii Soomaaliyeed sawirkay meelaha wareejinayaan ayaan doonayaa inaan xaqiiqadiisa ka yaraha dhaco geyga kan la yiraahdo Jubbaland isagana iyo awoodiisa iyo ciidankiisii iyo waliba beentiya propagandada xildhibaanada fila farmaajo ay la wareegayaan suuqa isagana banaanka ayaan keenaya alla sahle fila farmaajo nabar iyo naxdin baan haystaa caawa alla sahle yaa alla yaqaana oo iga garbaxaya aniga yaa Soomaaliya oo maanta intuu soo qabsado difaaci kara nabar iyo naxdin waa qodobada aan doonayo in aan caawa helo hal qof wiil hoog Soomaaliya intuu soo qabsado isku daya bal inuu Soomaali ka dhigo shalay Ethiopian iyagoo ayaa waxay dhibeen qalbi dhagax way iibsadeen waxay ogaayeen bay sameeyeen Allah sahle Ethiopian ma inaan ahayn war hadda boqolka soo gaadha konton baad eega mareysaan boqolka soo gaadha raalina hada aw balki boqolka soo gaadha xogto duuban ana haye لقب halkan bad qoodhigu noqday kaalay Jubbaland ay soo dhawow Jubbaland ramuudkaygi waa caawa ka carara Jubbaland wallahu musta'anun ala ma tasifun السلام عليكم كل بعض كنتنا يا صدق حياة مريسان ولي وادي يرتهين حكتنا أنا إن لو ذا جاي يعني very important waxaan ka codsanayaa bulshadan daawanaysa koobtan eega ku jirta walaalayaal Soomaaliyada inaad u fidisaan barnaamijkan lana wadaagtaan bulshada Allah sahle la wadaagtaan bulshada barnaamijkan insha Allah taala waan sii guda galaynaa waxaan laakiin idin ka codsanayaa inaad wada infeed gareysaan oo qof walba oo u dhashay Soomaali oo dhiig leh qof walba oo dhiig leh oo Soomaali
inuu infeedgareeyo barnaamijka xataa ninkii farmaajo ahna inay gaadho ilama ahan inay farmaajo gaadhayso because waad yartihiin inta daawanaysa eega aad baad u yartihiin sheertan inaad ku taabataan waa codsi caawa ilaahay amarkii waan iska jeclahay inaan karbaasho nabar iyo naxdin ayaan caawa ku marnaa anugu nabar iyo naxdin wamaa adraaka maa huwa nabar iyo naxdin dad nijaasaysan oo gebigooduba dhiiggii ummadda soomaaliyeed ku qabaysan haya hadda wayba ku qabaysanayaan yaxyaxaynin xishoon haynin soomaalinimadii ka fogaaday ayaa waxay horta haystaan geyigii soomaaliya tacsi ayaan u dirayaa soomaali maxamed meel kastoo joogtaba kol horena waa loo diray eegana waan u dirayaa qarax baa maalin kasta ka dhaca xamar lagama hadlo war heedhaha su-aashaan isweydiinhayaa waxay tahay miyaa la arkay nabar iyo naxdin inay ahaadaan uun yacni xin un inay u noolaadaan miyay madax u yihiin mise inay dalka ay maamulaan oo sistamkii federaalka ahaa ee la sheegi jiray allah sahle in lagu dhaqo intaana qodobadaas aanan gelin waxaan doonayaa inaan dul maro qodobadan caawa aan ka hadli doono ninka la yidhaahdo maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku magac dheer xarmaajo annagu aan u naqaano nabar iyo naxdin iyo khayre laba nin oo dambiilayaal ah runta marka laga hadlayo reality-ga marka laga hadlo rag crimination ah oo gayiga ka kali dhiig oo waxa weeye raggii dhuuxa dalka u soo shubay ilaa iyo eeg aan raaligelin ka bixinin ma ahan man qatala yacni qofkii qof dila ka'annamaa qatala naasa jamiican ma ahan waxaan iska hadlayo oon iska afuufaya maahan yacni qofkii qof dila wuxuu la mid yahay isagoo ummaddii oo dhan laayay nabar iyo naxdin ummaddii soomaaliyeed oo daawan haysay lagu hor iibsaday oo ummaddii baa la gatay macnaheedu dalkii baa la gatay wey dalka laakiin ummadda ka qaalisan horta ummaddii weliba halyeeyada ahayd ayaa la iibsaday waxaan doonayaa laba su-aalood caawa waan weydiinayaa jubbaland waxa uga cabbay ee uga soo naasacad farmaajo caawa su-aasha waan weydiinayaa khayrana waan weydiinayaa oo inadeerkii yahay allaha sahle wiilka hogaamiye al-shabaab waan weydiinayaa waxaan doonayaa marka maxaa ku kallifay nabar iyo naxdin beenta aan aragnay ee baraha bulshada lagu faafiyey ee waxaa weeyaan yacni jubbaland ciidan baa la wareegay ay la ordayaan meelaha ee askariga etoobiyaanka maxaa u geeyey oo maxaa ku qasbay farmaajo inuu wiil afqurmuun oo xabashiya hadda eeg oo weliba axmaar ah oo xaaraan dhalay ah oo etoobiyaan ah ilaan dalka soomaali baa iskale dalku dal soomaaliyeed weeye allah sahlay waxaa ku kallifay baa waxaan weydiinayaa inuu u tago weliba gebigiisubaa laba xidigla inuu yidhaahdo orodoo baxoo lacag weliba la siiyo laaluush inta la siiyo etoobiyaanka le orodoo kismaayo tag waxa weeyaan airboodkii isku daya inaad qabsato waku kaa halka kao annaguna brobagandadan xag doorashayana ka dhicin jubbaland inaan la wareegaan rabaa wiil gada ka yimiday ina u dhibaan rabaa oo halkaa iyo waxa weeyaan wiil ka yimiday dayniile meesha la yidhahdo labada deegaanba waa deegaan soomaaliyeed de allah sali xaqiiqadaa laga hadlaa dhabta waxaan doonayaa waxa uga cabba ama uga naasacad nabar iyo naxdin oo ceebaysan oo noognahay 38 milyan ay Soomaali ka kooban tahay eega 45 milyan baa lagu qiyaasaa 45 milyan ee Soomaali ka kooban tahay waxa weeyaan raali gelin ma la siiyay ummadda Soomaaliyeed waa daawanaysan waxa weeyaan ciyaalkii qalbi dhagax wada daawanaysan walaalayaal ilaahay bilaa aadan buu inaga wada dhigay dad islaam ah ayaan wada nahay ma ahan de xagga qabyaalada xagga naga dhigay Soomaalinimadan ka hadlaynaa hal mar baa wada xanuusateen war ma leedin raali geliyay Soomaali maxameday inta la yimid ma la yiri dalka sargaalkii u soo halgamay ee qalbi dhagax ahaa waan raali gelinaynaa ma la yiri haaya mayaan doonayaa haaya maya ayaan doonayaa qulubul hayya al umma qofka kolka uu dhaawaco allah sahlay waxa weeyaan dhaawacay uu iibsaday uu waxba yahaan ka soo saaray dalkii oo dhan waxa ku xigay waa dalka muwaadinka lambar 1ka dadkii haddaba sidaa ahaa ee qalbi dhagax intay iibsadeen oo lacag wayaana ka siisteen oo ku ceeboobeen hadda eeg ku ceeboobeen
haddana raalligelin ka bixin waayey anigu shakhsi aan ahay halgama saxana la yidhaahdaa waxaanan ahay soomaali galbeed cadowgeyguna waa etoobiya anigu shakhsi aan ahay waxaanu arkaa qofkaa ducfi kala jirin inuu yahay cadowga ummadda soomaaliyeed inuu yahay ayaanu arkaa inuu yahay waxaa weeyaan mashaqayste inuu yahay kolkuu xawso cabo xamdiyow kolka kale xaaji xumow inuu yahay kolkuu buunsho helo barraqow kolka kale bootin xumow inuu yahay jaajuuska kuwa ka sii liita ee qalbiyadooda ay dhaawacmeen waxaan doonayaa marka taasaa u socotay marka nabar iyo naxdin hadalka dhegaysta waxaa u socotay qalbi dhagax inay iibsadaan waxaana u aamustay ummaddii soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna caawa waan haystaa meel kastoo joogtaba waa hadday yacni human being hadday yihiin weeye waa hadday bilaa aadan tahay ummadda soomaaliyeed waan haystaa gare allay taqaanaaye qalbigiinnimaa la dhaawacay taan idinku haystaayo waa taa soomaalinimadii baad ka wada aamusteen ragganina intay dadkiini idinkii idin iibsadeen ayay aamuseene gartaa in laga daba tag weyan walaa xataa onalef baan lagu ixtiraamaynin because onalef qulubta shacabka soomaaliyeed iyadu ma maamushadii hadday tidhaahdo farmaajo xitaa onalef waan la hadlay ka yeeli mayno waxaan looga iyagu inay hadlaan baan doonaynaa markay taasi u socotay ay u meel martay farmaajo wuxuu isku dayey dhowr maamul goboleed oo maamul goboleedyada deegaanka soomaaliyeed ah inuu lacag u qaybiyo uu kala dirdiro oo federaalkii ku tunto hadda ogow magaaladii xamar ahayd ee caasimadii indhaha ummadda soomaaliyeed dadkii ehelka ay ku dhaqnaaba uu ku dulmiyayaa qarax baa jawudhaya xataa in injineeryarihi sawgi la sheegayey ee isaga laftigiisu waxaa weeyaan inkaaraqabaha ahaa allah sahle waxa dhaawacay qaraxa gudaha u geliyay al-shabaab maahane farmaajo laftigiisu ahaa annagoo wax kastoo xogo oo xasaasi oo siro og wuxuu la soo hadlay uu xiriir toosa la soo sameeyey dowladda etoobiya xilli jubbaland ay isu diyaarinayso doorasho madax bannaan oo iyadu iyo axsaabteeda siyaasigii ay doonayaan inay cod iyo rayn ku kala baxaan shacabka jubbalandna way tallaabsadeen dowladdeeduna way tallaabsato waxaa la gaadhay eega xilli yacni aan la buuqbuuqi karin inuu intuu la soo hadlo abiya axmed farmaajo intuu la soo hadlo la soo xidhiidhay ayaa wuxuu ku yidhi niyo waxaan doonayaa kismaayo inaad xoog igula qabatid abiya uu ka gambiyey wuxuu niyo arrintaas aniga ima taallo arrintaasi farmaajow waa arrin ceebeed weeye markaa madal ceebeed inaad dhex geyso anigu raalli kama ihi buuri jubbaland waa state soomaaliya ka tirsan oo dowladdiisii iyo baarlamaankiisii iyo shuruucdiisii u hoggaansan wey markii gaashaanka lagu dhuftay ayaa wuxuu yidhi anaa garanaya iska daa adigu ciidanka amisom town ii fasax anaa la hadlaya ciidankaas wuxuu yidhi an waxaan ku fasaxayna male intuu ka hoos guuray buu ciidanka amisom la hadlay weliba saraakiishii etoobiyaanka ahayd buu la xidhiidhay farmaajo iyo khayr ay la xidhiidheen waa nabar iyo naxdin hadda garo waxayna dhaheen meesha ka dega buuqaasaan afuufaynaa annagu haddaan nahay telefishinkii iyo dowladdii iyo nabar iyo naxdin afuufkaan wadaynaa yacni sidii cabdi ilay oo kale dee ninkani cabdi ilay oo kale maa nin ilaahay yaqaana oo tukada oo dalka u soo halgamay oo af dhuubtii iyo al-shabaab ka xoreeyay dalka ayuu ahaa axmed madoobe jubbaland axmed madoobe keligii ma ahan dhiig iyo dhaacaan baa u soo baxay waana loo soo shahiiday etoobiyaanna mayna u soo shahiidin nabar iyo naxdinna uma shahiidin dee khayran uma shahiidin allah saale rag baa u soo shahiiday jubbaland intaana inay sii qabsadaan weeye arrintii sargaalka ay ka soo daba wareegeen xogtiisi baan ku daba jiraa wuu iskeenay kolkuu iskeenayna madaxtooyadii ciidan yaroo sii joogay ciidanba lama soo degana ciidanka yaraa sii joogayn buu dhoolatus buu sameeyey madaxweynaha jubbalandna gaashaanku ku dhuftay isla markiibana amar baa lagu siiyey ciidamaa la duldhigay waxaa la yidhi xataa madaxtooyadii aad joogi jirteen ka yaaca adeer kala gala xaafadihiinna aada yes amisom somatiin nabadgelyada jubbaland baa ku filan sidaas ayay raggii la sheegayey ee lalahaa raggii la sheegayay waan insoo wada qabanay walaalayaal sidaas ayaa xaafadahooda iyo weliba lafahoodii u baqaya lafahooga iyagoo u baqaya hayo axmed madoobe ma qoro etoobiyaan ma qoro annaguna ma qorno
shacabka jubbalandna ma qoraan etoobiya allah sahle waa geesi waxa weeyaan muruqiisa maalaya weeye soomaalina ah waxaana makhraati ka ah ciidanka iyo shacabka jubbaland allah sahle intaa ay xamar qiiqayso intaa uu hawiye kaga qaylisiiyey ninkaas allah sahle jubbaland maqiiq baad ka aragteen hadda intii yareedee doorasho u dhacaysay qaraxa iyaga ka dambeeyey nabar iyo naxiin baa ka dambeeyey dad aanan ogolaynba dalku inuu dego ayaa horta waxay joogaan oo nasiib ay u heshay ummadii Soomaali inay u noqdaan madax tuug ah khaa'imiina ilaahay ka fogaaday oo waxa weeyaan carabta iyo ajnabiga u kala dhumanaya oo nabar iyo naxdina oo shacabkii Soomaali aan raali gelin taas waa qodob Soomaaliba u taala maxamed waliba waxay u taala koonfur bay u taala maanta inay meel saaraan allah saale ninka kan dambiilaha oo qabyaaladaystaha farmaajo haddaad maqashaan waa qabyaaladayste waryaa waa ninkii barahiira la yani la talinayay telefoon ku soo wici jiray waryaa waa inaad kismaayo qabsataa ninkii dhihi jiray wey waxaasi Soomaalinimo marka ma ahan waan ku soo qabanaya walaali waan soo qabanaya Soomaalinimo waxaasi ma ahan waxaan doonayaa waxa bilaabatay shacabka dalka ayaan soo wada qaban hayaa qof kasto Soomaaliya soo qaban hayaa waxa weeyaan fikirkiina oo dhibanaysaan ra'yigiina si saliim oo Soomaalinimo u dhibta farmaajo waa qabyaaladaysta ee gabadhageysta waana dambiile ee gabadhageysta wuxuuna iibsaday shacabkii Soomaaliyeed oo dhan waayo qalbi dhagax dhuuxa iyo dhiiga dalka ayuu soo shubay raali gelina ilaa eega lagama hayo aad ma sadin makarafoonka ku soo wada boda hana ku dheeraanin allah sale caawa ciil baa iga haya dhabar iyo naxdin wayna ceebaysan yihiin ciidamadii Jubbaland baana dalkii baar ilaa cadhib haya waa guul u soo hoyatay Jubbaland oo kale wey waxaana la tusayaa in lagaga awood badan yahay Etoobiyana farmaajo waa la tusayaa allah sale Ethiopia annaga ka soo xigna allah sale hiil iyo hooba annaga la garab taagan Jubbaland allah Ahmed Madoobe maahan annagu badbaadada Jubbaland baan u taaganay dhageyso ama ha dhageysanin allah sale Soomaali ahaw ama ha ahaanin waxa weeyaan ilka yar ahaw ama ha ahaanin anigu runtan ku sheegaya hadalka si fiican u dhageyso farmaajo Soomaali ma ahan waayo dhiigii ummadda Soomaaliyeed buu iibsaday maalin kasta qaraxa ka dhacaya xamar Ahmed Madoobe kismaayo nabad buu ka dhigay farmaajo wuxuu tagay xamar muxuu nabad uga dhigi waayay away wadanigii la lahaa waa farmaajo nabar iyo naxdin nabad iyo nolol away intaan hadalka dib baan ka raacsanaya wixii canaana iyo wixii kale ee xogtaan hay dib baan ka raacsanaya asxaab badan baa la soo qabo asxaabtaas soo qabanaya marka ama xanaaqsanadan ama farmaajo ha taageersanaa ama Jubbaland alhaqu liman sabaq wallahi billahi ya tallahi ama gabba ama ha gabbanin ka ano wata anugu intaan soo halgamo Soomaaliya xamar baan difaacay maantana ma ogolaanaya inay kismaayo noqoto xarunta qaraxa ee farmaajo khayr ay wadaan war kaalin soo qabso saaxib kaalin oo soo qabso fikirkii shacabkan gaadho xogaa waan soo qabanaya xogaa baan ku yar jiraya caawa ku soo booda allah saale ku soo booda doodina dhiib oo iyada oo aynan awoodda aynan haynin nabar iyo naxdin ayaa waxay ku faaneen inay kismaayaba gacanta ku dhigaan inay airportka haystaan inay garoonka haystaan inay magaalada ciidan saa ugu soo daayeen amisom iyo Ethiopiano noo birmada waraa ku soo hello salaam alaykum walaal waan ku salaamay wa alaykum salaam walaal waa ka qaaday nabar iyo naxdin baan caawa ka hadlaya allah saale dhaawacay qalbiyada shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad saaxiib macaane aad iyo aad waxa weeye dadaalka aad wado iyo xaqiiqada aad macnaha bulshada Soomaaliyeed aad la wadaagayso hore ugu sii socon ku leeyahay marka koobaad talabaad waxa weeye dhammaan waan wada salaamaya daawadayaasha iyo asxaabta macnaha barnaamijka nagala qayb qaadanaysa wala hada xog naga sii xaqiiqada dhabta ee Jubbaland ilaa dad baa Ethiopian waday oo waxa weeyaan la wareegay Ethiopia ay noo qabanaysa kismaayada hayay Ethiopia ma u qabatay kismaayo allah saale nabar iyo naxdin saaxiibo macaano waxa weeye horta hadalku waa run kama rayste ee Soomaalidu dhahdaa waxa weeye Jubbaland baan maanta ku sugnahay gaar ahaan degmada Doobley yaan waqti xaadirkan aan kula hadlay yaan ku sugnahay waxa weeye Jubbaland waxa ka jira nabad geliyo buuxda run ahaantii ma jirto Soomaaliya meel maanta nabadda ay Jubbaland haysato waxa weeye meel kale oo macnaha haysatay ma jirto waxa weeye waxa ka jira dawlad dhisan oo nidaam macnaha
dawladeed iyo haykal dawladeed leh shacabkeediina uu ku kalsoon yahay oo garab taagan yahay baa ka jirta waxa weeye ooma baahna maanta waxna micnaha kama qaban karaan Ethiopia iyo waxa weeye nabar iyo naxdin nidaamkan ay Facebookga beenta iyo propagandada ay ku abaabulayaan waxa weeye wax micnaha ay Jubbaland maanta shacabkeedu u joojinayo ma aha taas qolyahan waxa weeye iyo beenta afufayeen iyo ciidamada Jubbaland iyo heegankooga iyo magaalada Kismaayo balka shaqeeya airportkii iyo waxa weeyaan meelaha ay lahaayeen Amisom baa inoo qabanaysa Ethiopia baa jaanka Ethiopiaanka inoo qabanaysa taayada yaraatuna waxaad xokays maadaama tahay muwaadin ku sugan Jubbaland walaalow macaana waxa weeye Kismaayo waxa amnigeeda sugaya ciidamada Jubbaland ayaa muddadanba heegan ku jiray waxa weeye laga bilaabo bishii eega inaga dhamaatay kowdeedii ilaa iyo maanta waxa micnaha si xoogan loo abaabulayay ciidanka Jubbaland sidii uu amniga kolkii horeba ayakoo sugay uu maanta haddana uu waqti xaadirkan uu si laban laabi lahaa guud ahaan Jubbaland haday garoonkii tahay madaarka diyaaradaha Sida Cabdulla Xasan iyo hadii ay micnaha magaalada tahay iyo hadii ay matqaanay goobihii muhiimka ah oo dhan ay tahay waxa ku sugan oo nabadgelyadeeda sugaya ciidanka Jubbaland waan gartay marka waxoogaa barbaaran oo rab Jubbaland iyo shacabkeeda Allah saale waa dad kala siinaya mikrofon okay waayay saaxib mid yar oo kale oo micnaha barnaamijka aan ku daawanayo carabka ku dhufatay aan ku sheegaya inaan ana ku sii xoojiyo waxa weeye qalbi dhagax shalay micnaha farmaajo iyo qoladan fiila Soomaaliya ee nabar iyo naxdin inay dhibeen waan ogaa waqti xaadirkan hadda Muqdisho waxay noqotay horta xero micnaha dad gaar ah lagu iibsado ayada oo tii dadka shacabka ah ee Muqdisho ku noolaan aad ogtahay qaraxa iyo dhibaatada mar walba micnaha habeenkan daa'im qarax baa ka dhaca qaraxa weyn ee micnaha qof mas'uuli ah ama qof micnaha heer caalami ah ama dad ajnabi wax ku noqdaan bay idaacaduhu sheegaan marley qarax baa ka dhaca maalinka ugu yaraan 10 qarax baa dhacda waxa weeye isaga laftigiisa inuu al-shabaab iyo laga yaabo madaxweynaha farmaajo laftigiisa waa reality taas wuu yahay because hadduusan ahayn siyaasadda shacabka Jubbaland oo israacday kolkii oo arkay oo wax garadkii iyo odayaal dhaqameedkii oo micnaha gacmaha isqabsaday iyo dawladoodii qaraxa Kismaayo ka dhacay ma uusan dhaceen hadduusan asaga ahayn hadda 10 sano oo micnaha hadda ka horeysay buu micnaha Jubbaland ay dhisnayd oo nabadgelyo ahayd hal maalin ahana qarax kama dhicin qaraxii waagi dhaweeyta ka dhacay ee dadka badan ku waxyeeloobay micnaha in halka laga soo abaabulo waa mid xaqiiqo ah xogteedana waan haynaa ayadoo dhameystiran bulshada waan la wadaagi doonaa ta kaleete saacadan abtinow yaa waxa lagu iibsadaa dhalinyaro waxa weeye deegaanka Soomaalida ka timid oo yaryar oo waaheega la yiri yaa baasaboorradoodii waalin dhaweeyta laga qaaday waxa weeye garoonka aadan cadde ee Muqdisho oo baasaboorradoodii laga haystaa marka waxay noqotay saylad lagu iibsado waxa weeye dad gaar ah saylad lagu iibiyo ayay noqotay horta waxa marka waxaan ognahay inay shacabka reer Muqdisho oo dhan ay ka soo horjeedaan ninkan qaraxii lagu dili gaaray ninkii injineer Yariso loo jiray inuu isagu ka dambeeyo nabar iyo naxdin farmaajo oo isagu al-shabaab ta laftigiisa lagu tuunsan yahay iyo ninka la yiraahdo Khayre oo in adeerkii ninka la yiraahdo Cali Dheere ay ilmadeer laxmiya yihiin Allah sahle isaga laftigiisa al-shabaab inay ka dambeeyaan taatuunkaasi waa jira oo cadeyntaadii waa la hayaa laakiin shacabka xamar ee Muqdisho ku dhaqan baa laga rabaa inay mudaharaadaan oo isdhaafiyaan labadan tuug Allah sahle aad ba saaxiib ma hasantaa waan soo gunaanada yaa dad badan baa ku sugaya waan la haystaa waxa weeye walaalow shacabka reer Jubbaland midnimada iyo wada tashiga iyo walaaltinimada iyo Soomaali dhab ah dawlad Soomaaliyeed Jubbaland bay ka jirtaa dawlad Soomaaliyeed walaalow hadaa doonayso Jubbaland bay ka jirtaa exactly waxa weeye mid qoys gaar u ah ma amni iyo nabadgelyo haysta qoys dawlad gaar u ah maaha koox dawlad ay gaar u maamusho maaha Jubbaland waxa weeye qoyska ugu yar iyo qoyska ugu weyn
hal mid ay wax ku wada qaybsadaan hal mid aha mataqaanaa dowladda loo wada wadaagaa marka shacabka Jubbaland waxaan kula dardaarmayaa inay nabadgelyadooda iyo midnimadooda iyo muwaafaqadooda iyo isku duubnidooda ay sii laban waa ta koobaad ta kaleete shacabka waxa weeye ku dhaqan magaalada Muqdisho ee dhiigooda waxa weeye nabar iyo naxdin ay ku faantamaysaa nolol iyo nabad iyo nolol ay ka dhigayso maxaa nabad iyo nolosha taala maxay tahay war maal dhawaytaan tagay waxa weeye 10 qarax ugu yaraan oo waxa weeye aan bulshadii lala wadaagayn oo TV ka warinaynin yaan indhahayga ku soo arkay marka walaal macaane aad iyo aad baan adiga iyo bulshada meesha ku jirtaba idin salaamaya dad badan baa ku sugaya waxa weeye isku duubnideenu waa muqaddis baan ku waana sii wadayna waa la sii wadi shacabka Jubbaland thank you waad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waryaa hadda faanole weli fari kama qodna soo wada laakiin waxaga bal hadda Jubbaland adarde habaarka farmaajo iyo khayro ma baahna Allah saale waxaga yaraha nasano soo dhawaado bulsho Allah saale yaraha sheerta ku yaraata baashu lacag ma joogto baasha tan dhiig ba u soo daatay Allah saale waxaan ka hadlaynay waa Jubbaland way Jubbaland sadaqa kuma iman sadaqo laguma bixinin Jubbaland annagu waxaan difaacaynaa Jubbaland waxa weeye nabadgelyadeeda iyo amnigeeda raggi keenay baa jooga Allah saale shacabkii Jubbaland oo israacsan baa jooga niman yow taasaan ka hadlaynaa Allah saale waan yarna san haynaa ee waxa weeyaan infad iyo sheerta ku wada qabto waan soo qabanaya Cabdi Shaafi oo ku soo qabanaya walaale Jubbaland sadaqa kuma iman sadaqa ma ahan warna bariga naxin ha loo sheegnayo Allah saale ayo talaadatiin sheerta ku qabta oo bulshada la wadaaga Allah saale Jubbaland sadaqa kuma imanin Allah saale dhibaadna de looma bixinin gafur duub baa laga qaaday waxa weeyaan yam iyo qadaad weyntii ummadda Soomaaliyeed bireen jirtay iyo ninkii ahaa biriqaatihi waxa weeyaan crimination-ka ahaa iyo waxa weeyaan nimankii la oran jiray magaca lahaa maxay mooryaantii iyo waxa weeyaan dadkii inkaaraha qabay ayaa laga qaaday Jubbaland yaa ka qaaday dadkii dalka lahaaba ka qaaday oo dhashay muwaadiniinta ah dhiigga Soomaaligu uu ku jiray Allah saale ayaa ka qaaday oo xoreeyay maalintii Jubbaland la xoreeyay Kismaayana laga qabtay cadawgii haystay ee gafur duubtay Allah saale ayaa ugu dambeysay qarax dambe ka dhaca okay qaraxii wuxuu soo laabtay waxa weeyaan 7 sano kadib wuxuu soo laabtay maalintii la yiri doorasho la galayaa ayay nabar iyo naxdin helaan meel ay ka doldolaal ay ka soo galaan Jubbaland Axmed Madoobe kaligi male dadka degan baa iskale shacabka deegaanka iskale Soomaali weyn oo dhan baa iskale nabadeeda ilaashan hayaan maxaa ka galay adigoo iibsaday shacabkii Soomaali Allah saale maxaa kaaga gidhiisha Jubbaland war maxaa adiga Etoobiyaankan aad u kol garanaysid ka galay war Etoobiya qalbi dhagax baad ka iibsay lagu aamusay haddaad nabad doonaysid Allah saale ninka la yiraahdo nabar iyo naxdin farmaajo ninka la yiraahdo la hadlaya ilka yartaa ma ahan dhaladkii la yaqeenay iyo mareexaan ninkaasi ma ahan waa ilka yar weeye cadow ilaahay weeye waana cadow Soomaaliyeed inta halgama saxan ha laga qoro Allah saale ma xishoodo weeye ma yaxyaxa weeye waxa weeyaan dhiig ma yeesho weey hadduu goob yahay Allah saale caasimadii dalka Soomaaliyeed meeqa soo hadda madaxweyne ka yahay wariya xilkiisa wax yar baa u haray intuu joogay maalintii ilaahay gaana bil kasta qarax ba ka dhaca waraadade ehelka iyo qaraabadeen iyo Soomaali miyaan ahayn dadka la baabiin hayo warkaalaya
farmaajo iyo khayre iyagu ma isirgoynta iyo sifaynta ummadda soomaaliyeed bay u joogaan eeg intayna jubbalandba soo aadin kaliya tahay imtixaanka u yaalla iyaga iyo waliba xildhibaanada khaniisyada allah saale xildhibaano khaniisya oo jubbaland ka hadlayaan arka allah saale war kuwaasi waaba khaniisya iyagu maxaa ka gala jubbaland iyagii baa toodii waxa weeyaan toodii bay yay dabari waayeen xildhibaankii khaniiska ahaa ee qalbi dhagax haystay waagii ee qalbi dhagax caayayay oo waxaan arkay jubbaland ka hadlayo dood wadaag soo galay waada waa khaniiskii aanu ogeyn ee la yiqiinay reer bareeda ahaa allah saale war dadka noocaasa oo dhaqan biiska ah inay dowladda hawta marka horeba ku jiraan baa waxay sharaf dhac ku tahay ummadda soomaaliyeed diinta dhaqan ay haystaan iyo diin ay haystaan iyo wax ogol male okay dadka noocaas ah ayaa jooga villa farmaajo dadka noocaas ah ayaa ka hadlaya waxa weeye masiirka ummadda soomaaliyeed bilaahi calaykum soomaaliya xageed joogtaan markuu khaniis ummadiina uu ka hadlayo ee khaniis siyaasadda soomaaliya ka hadlayo ee khaniiskii qalbi dhagax iibsaday ee la yiqiinay warda magaciisa waad garanaysaan khaniiskii allah saale waa xildhibaan ilaa iyo eega ayaa doonaya inuu waxa weeye jubbaland afka la soo galo xildhibaanadii shalay diidanaa qalbi dhagax lahaa waa etoobiyaan wiilka dhiiggiisii iyo dhuuxiisiiba u soo shubay dalka soomaaliya allah saale lahaa waa etoobiyaan waxaan ogaa samaynayay ayaa maanta ku doodaya oo waxa weeyaan beenta iyo propagandada huhda afuufayay oo lahaa taliyaha etoobiyaanka kismaayo ee noo qabanaya ar etoobiya indhaha shantaasa annaga naga celisa adeer soomaali baan nahay sayidkii baanu ka dhalannay waxaa weeyaan dadka badan ma nihin annagu axmed gurayna waa u soo aaraynaa allah saale kobtay marayso tii etoobiya ahaydna waydun aragtaan raartaan u fadhinaa kobtaasaanu u galnay wallaahi baynan nala liqi karin nana tufi karin taa farmaajo ha ku seexdo hadduu doonayo inuu etoobiyaanimo iska gado eega waa laga gudbay xilligii etoobiya loo dhundhumanayay wiilkaa yar oo jananka ah oo afka qurmuun oo amisomta sheegan haya etoobiya amison maba gashaba waana qalad inay xitaa kismaayo si joogto waxa weeyaan xilkiisi baad u qoostay xilka waa laga qaadaya farmaajo ka sheeke xilka waa laga qaadayaa abiy axmedna amar baanu ku siinhaynaa inuu xil ka qaado waayo isagoo amisona waxa keenay ee waxa weeyaan lacagta uu u qaatay ee arrimaha soomaaliya geliyey isagoo etoobiyana ayaaba qaladaba waa antiway waxa weeyaan haddii kala soomaan wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi oramaan dhagaa ku dhufanaynaa oo abiy axmed baanu hooyadii ku wasaynaa oo wallaahi bay isla waalan wallaahi adeer annaga waana la sasabaa farmaajo ragga la sasabaayey waa ragga ku dhaqa soomaali galbeed wey yes we are soomaali galbeed gob dhasha xagga soo jirta waxba annaga sida bashadii kolla xagga hayay kolba dhinaca u afdhuublaynayna si geesinimo loo soomaalinimo leh oo dadkii la yiiqinayo mareexaankii dhaladka ahaa iyo siyaad barre sidiisii weligaa iyo allah hal maalin xitaa maadan u hadla sidiisii wax yahooni waxa weeyaan meel uu ku soo kora anu aana garayn oo ilka yarka ah war waxa kan muxuu ahaaniyo waxaa loo baahan yahay marka waxba yaanan ku caayine waad adaa is caayay farmaajo iyo nabar iyo naxdinow idinkaa is ceebeeyey allana waa idin ceebeeye waad ceebaysan tihiin waxaad ku ceebaysan tihiin caasimadii dalka soomaaliya wallaahi waad ceebaysan tihiin gunna waa tihiinoo waxaa weeyaan ciyaalkii qalbi dhagaxoo ooyaya ayaad xamar ka soo caydhiseen ma gob baa tihiin war khayreya farmaajo ma gobba mise waa gun nooc calaacal adeer nooc calaacal etoobiya anaa kaa xiga waryaa sida kiniinka u liqtaas farmaajan la hadlaya iyo khayre ragga kan waxa weeyaan argagixisada carabta u kala dhuumanaya ee al-shabaabta walaalaha la wada ah argagixisada allah saale ayaan la hadlayaa caawa etoobiyana anaa kaa xiga axmed madooba kaa xiga oo jubbaland baa xitaa kaa xigta oo kenya kaa xigta allah saale kenyana annaga kaa xigna waa kolka aad u afdhublaysa etoobiya annagu waxaanu ku leenahay soomaali baa tays garo waryaa edab yeelo ayaanu ku leenahay ilka yarow edab yeelo batraan baad ahayd kolkaaga horeba dhalashadaadii adigoo yar oo kuraya oo ayoo ciyaal suuqa dadkii dowladdii siyaad bere rogay baad ahayd gabdhaha kufsanaya allah saale gabdhaha kufsanhayay ayaad ahayd maxishoodaa tahay caada qaata maanta saraakiisha etoobiyaanka oo weliba etoobiya iyadiiba kala socota u kala dhumanayo lacagta masaakiinta shacabka soomaaliyeed ku iibsanaya ayaa tahay maxishoode ilaahay waa ku tusi waayadee awooddaada laakiin ilaahay etoobiyaankii wuxuu tusay awoodda jubbaland
laahi billahi taala sanka la gelinayo wallahi sanka inta laga geliyo ayaa la dhalaalanaya iyaga aaboodba abi axmedna annaga xaggan ka sulayna xagee tagay marka xagee ku qaran farmaajo goobtii hawiyana waan la hadlaynaa waxaanu leenahay kaca nacala shaydaan ku yaal waxa weeyaan goobtii hawiya dad goobtihiin goob adaatihiin intuu joogay inta dhimatay iyo intii uu maqnaa islameeka xataa civil warkii Soomaaliya ka dhacay iyo eega uu joogo khayriya joogan nabar ya naxdin inta dhimatay intay joogeen badan oo wallahi taana huba la shaka wariya maxishoodow Soomaali weyn oo dhan intay ku taageertay oo qalbi dhagax oo waliba la yaqaan xalsoo ku tukaday oo ku duceeyay oo waxa weeyaan lagu garab qabtay ayaad ileen toobada Ilaahay baa dadka seejay hal mar bay ka siibtay maxishoodow dhageyso dambiilow dhageyso wallahi ina si noolaatay anigu dambi baan arkaa nabar ya naxdin waliba farmaajo inuu si noolaado maanta anigu shakhsi aan ahay islaam baan been sheegmay wallahi dambi baan arkaa been sababtu maxay tahay muxuu laayay inta hadda dhimatay ee la hayo ama tuuganimaha ku dhimato ama si kale ku dhimatay Soomaaliya ka dhimatay 28,000 oo wiil bay maraysaa maxay ku baabeen dadkaas marka waa qaraxyada ka dhacay inta farmaajo hadda xilka hay 28,000 people bay dhaafeen inta la dhafooriyay iyo inta la xidhayagu tira male annagu haddaan nahay Soomaali galbeed shacabka Soomaaliyeed ee baabaayo waa noo xisaabsan adeer meel bay noogu qoran yihiin dalka kana waa dal Soomaaliyeed annagu ilaa Axmed Guray ayaanu u soo halgamaynay Soomaali weyn idagaysa inaad guntaan ku sheegayaay nabar ya naxdinay adna xamar baad qabsatay Jubbalandna waxaan u dooranay Axmed Madoobe Jubbaland waa laga salgaaday nabadeedina waa la keenay kolka la doonana shacabka Jubbaland ba iska bedelay idinka wax idin yaalamaan idinka laakiin tiini qaraxu muxuu uga dhacayaa Jubbalandna laayda loo cabiyaa bal ii sheega intaas tolo ma wadaniyad la'aan ba ma yani saasad wadaniyin ku tiin miya saasad Soomaali ku tiin miya Axmed Madoobe iyo reer Jubbaland iyo musharaxiintooduna saasay Ethiopian ku yihiin miya ya intaasaan doonaya inaan weydiiyo su'aashaas si dhab in loo gaarsiiyana way fiicnaan lahayd haddii markaa aad idinku aad u horseedeen dalkii qax barakicin burbur qabyaalad tuuganimo musuq iyo maasuq iyo mardaduug iyo dadkoo la xidho iyo dadkoo Ethiopianka laga iibsado oo waliba eegana aad la sii taagan tihiin sargaalka Ethiopianka aan la hadlaynaa Jubbaland baa la yiraahdaa tanadeer soddon iyo dhowr qabiil baa degan oo Soomaaliyeed nabad baadeer naas la nugale nabadda iyaga ka jecel wax ku hoggaansamina ma jiro hadalkaas sida kininka u lag wallahi billahi ya tallahi daadku wuxuu ku soo galayaa fil farmaajo meesha aad joogto koobta aad joogtid iyo carrada goobta ay degan tahay Allah sala goobta hawiye iyo beelweynta Soomaaliyeed degan yihiin ee xamar caasimadii Soomaaliyeed daadku inuu kugu soo gaan Ilaahay ka rajeynaya Ilaahay nasrigi taasaan ka rajaynaynaa waayo cuqubaad wadaa inkaar baad wadaa qabyaalad baad wadaa xun oo dhan baad wadaa ficilla yani Soomaaligu ku dhaqmin bila aadanku ku dhaqmin oo humanitarianka xitaa aanan ixtiraamaynin oo xuquuqul insaan aan aqoon baa tahniyo ma xishoonaysid xamar baad laba degmad abni ka dhigi kar laday maxaa loo qarxiyaa xamar maxay galabsatay xamar maxaa loo laayaa siyaasiyiinta xamar way baa farmaajo loo qarxin waayaa yiriisow loo qarxiyay yiriisow ognaysay wuxuu ku kacay xilligii adiga ku taageersanaa way baa shacabka Soomaaliyeed xaafadahooda loo qarxiyaa iyo xarumaha shacabku joogo goobaha adiga iyo khayr aad joogtaan loo qarxin waayaa sidaas marka ma waxa weeyaan madaxtinimadii ummadda Soomaaliyeed ba kolkaad iibsatid ummadda Soomaaliyeed waxaad ogaataa naxnu umma waahida Soomaalidu waa mid waana qalbi hal ah meel bay u jahaysan tahay Soomaaliyana Soomaali baa iskale waana shan ogaadeeniya NFD Djibouti Somaliland iyo Banaadirland wi shantaba ana iskale Ethiopian male cid kale male Kenyan male adigu hadda wax adiga farmaajo ayaan doonay inaan su'aal ku weydiiyo wadgooyin gaarsiiya Allah sahla gaarsiiya su'aal inaan ku weydiiyo ayaan rabaa wariya adigu intaad qori qaaday
dhiigga ma u hurtay oo hal maalin xitaa ma u dhiiday intaad meelaan soo istaagtid aad marmar aad dareeska soo xidhinaysid qori ma soo riday dalka weli ma u dhididay allah sahale awnay fuustaanbaha United States ku soo koray anu waan ku aqaanaay tuuganimo inta lacagtii shacabka soo dhacday ood gabdhaha ku soo joogada xildhibaana soo kufsatay wariya waxa soo samaysay inta soo samaysay waa in faatakum tiibad eega ku socota kolka la iska qaban waayo Soomaalina ku daawato eega waxa u socotaay waa Kismaayo iyo Jubbaland maxay nabad u noqotay hatta qabyaalad ka weyn yani way umada Soomaaliyeed ee 33 qabiila ee Jubbaland ku dhaqan way ayay nabadgelyo ay u heli karaan xamarna dadka loogu leenaya te xamar adaa baabinayo qarxinaya okay cadaawado dhan adaa abuuraya way bay Jubbaland nabad u noqotay macnaheedu ma ahan way baanu anagu madaxweyne kaaga dhiganay taas ayaa bedelkeeda ah una baahan shacabka umada Soomaaliyeed inay gartaan oo isweydiiyaan who is Farmaajo armaajadan baas nabar ya naxdintan baas dadka kana dhiig lahaynayna kacaynin ee aan isdhaafinaynin maxay ahaayeen ya wariya maalintan ku taageernay al-shabaab oo dhan ayaa qudbaysay xitaa oo tiri ninkan dadku aad u taageereen annaga diyaar bay wada ahayn inay dalka nabad ka dhigaan inaad la hadashid ma ogolid in adaaba ka dambeeyay kullu fidna inda geel adaaba waxan ka dambeeya warda ma ilaahay ba taqaana mise qof islaama tahay munaafiq iyo mooryaan adaa ka daran argagixisada xitaa adaa ka daran waayo kabiilayaaba adiga wariya wadani matid oo ma xishoonaysid oo waxa weyn Soomaali matid wariya shacabka u dhashay geyga Soomaaliyeed baan la hadlayaa caawa xamar caday baan la hadlayaa reer Banaadir iyo Muqdisho aan la hadlayaa abkaya abgaal baan la hadlayaa orgooyino ka kaca fadhiga Allah saale war ma maydkiina sugaysan shari qalbi dhagax baad u ooyeyseen waxa weeyaan raali galina la idin kama siinin maanta wakaa wallahi iyo billahi iyo talay haliyay kasta oo aad leedihiin inta miina loo dhigaa la dilayaa yaa dilay al-shabaab baadishi wadaniga waxa weeyaan saa u dhaqmaya hadana madaxweynaha sheegan hayay who is that waa Farmaajo wana nabar iyo naxdin wey anigu iyo Soomaali galbeed waxaanu dabada haysanaa taariikh halgameedkii waxa weeyaan Garaad Axmed Guray Allah sahle qabrigiisana waxa weeyaan waanu tagaynaa go'aanka waanu qaadanay hadalka si fiican Soomaali Maxamed u dhageysta geyga kan Soomaaliyeed Soomaali baa iska leh inaga leh geyga kan inuu midoobo waxa weeyaan kol kastana aanu gob aan ahaano ayaanu doonaynaa ninkan buka labada nin oo buka kan afka qulumbaha ale ee khayr la yiraahdo waa nabar iyo naxdin iyo kan kale oo xarmaaja ilma adeer gob noqdo kaca oo isdhaafiya waa macaan jecel wadna malahan dhegta wax loo sheego waa ninka laba xidigle Ethiopiana maanta awood ka day laba xidigle Ethiopiana ayuu soo wacay Farmaajo maanta iyo khayr bay soo waceen Amazon baa haystaa orod Amazon taad sheegay sida adigu aad wacaysid annagu inta tagnaa in dhaaka garaacina Abiy Ahmed ka aad ka cabsanaysid wallahi iyo billahi talaay faruuriyaha iyo madaxa inta soo qabana dhoobo galnayna mana taqaana kuwaana wariya ilka yarkan la hadlaya caawa dhalad ma ahane ilka yarkan la hadlaya dhalad ma ahan Soomaaliyeed ma taqaana Soomaali galbeed ma taqaana ya ahbal ma taqaanid laakiin waa lagu bari doonaa la tawalwal wala tanahna xamday ku yaro cali lahday la tawalwal wala tanahna wala tanahna qada doontid koobtaada joog koonfurna sabaabi waxa laakiin ballan ilaahay ah oo nu ka qaadnay qalbi dhagax inuu kugu yimaado xamar taasa ballan ilaahay ah torta ku bishaarada taas hadaad American uma duuli kartid meesha tagi lahayn aad laga rabaa ama koonfur Soomaal inta haysi ooydo hana si qarqaraxdo waliba ha sii daldalaacdo ama Jubbaland Soomaal bariyana kaaga ma baahna habaarna kaaga ma baahna duca xitaa kaaga ma baahna wallahi billahi tallahi way anagu tabaqoodigu dhowr nooc way umada Soomaaliyeed say tahay gob weeyi gobanimadeedana ku ixtiraamayna laakiin gunka soo baxa Cabdiilay anaga meesha ka turnay
annaga isdhaafinay markii ummaddanadu baabiyey tigree annagaa salka dhulka u dhignay yaan nahay annagu soomaali baan nahay garaad axmed guray baanu nahay laa sahle salka dhulka annagaa u dhignay oromo dagaalka annagaa barnay laa sahle annagaa nidhi mudaharaada yaa ninka la yidhaahdo farmaajo hinaabo waa laa sahle haddaad gob tahay gob ma tihid oo kolley gum baa tahay kolley hadalkayga caawa kugu khasaaray laakiin ma gedid waxaan ka sii jeclaan lahaa caawa xilligii loogu talagalay anigoo jooga intaan ku imaado filla soomaaliya kugu imaado askarigaa laftigiisa amar inaan kugu soo siiyaan kasii jeclaan lahaa laakiin way iman haysaa few months ayaa iga dhiman taas few months ha sugi waayna few months soomaaliyana kala qaybqaybin iyo waxaanaad ku dhex wadid way ka bixi doontaa maamulada nabadgelyada iyo amniga haystana taxta ricaayati anigay hoosteeda joogaan somaliland ha noqoto puntland ha noqoto jubbaland ha noqoto taxta ricaayati taxta ricaaya almuwaatin wadariga dalka usoo halgama soomaali galbeed bay hoos joogaan yacni xaggaana isuma dhaqaajin kartid xaggaana isuma dhaqaajin kartid wallaahi iyo billahi ka baan kaaga saaraya madaxtooyada waanan awoodaa kolkaan etoobiya ka adkahay waryaa waraadhe mid baa soo garaacaya raalli ahaada walayaal raalli ahaada waan ku dheeraaday barnaamijka sheerta taabta farintana gaadhsiiya habaar qabihii gaadhsiiya habaar waalid buu qabaa farmaajo gaadhsiiya ha ogaado etoobiya uu ku soo ordaa horta inayn ka soo renin ha ogaado etoobiya axzaab bay noqotay annagaan u talina wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi wiilka wiil hoogga soomaali galbeed amarkiisa hadduu qaadan waayo abiy axmed wallaahi subax buu yaacaya oromada annaga hogaaminhayna axmaarada annaga hogaaminhayna marka waxba wiilka kan yar oo waxa weeyaan ku soo koray waxa weeyaan dhiigga shuhadada ku soo koray oo eega iska jooga waxa weeyaan kismaayo xataa kismaayo inuu joogo waa qalad maanta inuu gagabanaya la sheeg wiilka amisonka waxba yuusan gagabanin farmaajana waxba yuusan la soo hadlin wuxuu ogaadaa inay xilka laga qaadano wiilkaas taas waa ballan xilka in la dhaafin doono jubbalandna doorashadeeda inuuna ugu soo dhuuman karin waxa weeyaan saraakiishii tigreega ahaa ee la yiqiinay iyo xabashi inaad anagu kuwii ka sarreeyay isaga uu sargaalka u ahaa ayaanu u talinaa xubin cagjar baanu u dirnay isagaa meel soo saaray allah sahlay xaggana abiy axmed samaan caddaani iyo waxa weeyaan maaday iyo madaxdii kaadirkii ayaa loo diray axmed shide xaggeed u socotaan marka war annagaa tan ku kaadina adeer tan annagaa ku kaadina waxba ha iswaalina marka farmaajo haddaad doonaysid inaad dhimatid annagu si yar oo fudud ayaanu nafta kaga qaadinaa ina adeero gacaliya haddaad gob tahay weeye si fiican u dhimataa fiican sharaf leh si yar oo fudud oo waxa weeyaan karaamo iyo cisi leh oonan qarax ahayn oonan boodbood ahayn baanu kabtaa tunka kuu soo qabanaynaa tunka saantan kuu soo qabanno ayaan leenahay ma gedid gayiga soomaalida ka bax baasaboorkaaga yarna iska qaado anba baxnayo na dhaaf haddaad jeclaato inaan ku dilnana kollay fulay baa tahoo jeclaan maysid laakiin waad jeceshahay shacabka soomaaliya inay baaba'aan oo waan ogahay dee gob baadan ahayne in lagu dilo haddaad laakiin codsan lahayd si fiican baa lagu kidfi lahaa wallaahiya taa waaban hubaaba shacabka soomaaliyeedna kuma rabaan koonfur iyo xamarna kuma rabto kismaayana kuma rabto hargeysa iyo somalilandna kuma rabto ogaadeynaya soomaali galbeedna kuma rabto nfd iyo kenyana kuma rabto taasi waa taasoo waxaa lagaa uriyey lagugu nacay unbaad kollay qabtaa kollay ceebtaad leedahay unbaad qabtaaniyow laakiin waxaan ku leeyahay ku bishaarayso waxaad xildhibaanada khaniisyada aad u soo fadhiisisay tiifiyada inay been ahayd horta ku bishaarayso jubbalandna etoobiyadana adigu aad u naqnaq leedahay jubbaland bay u niikisaa annagaana ku qasabnay annagaana ku qasbi doona okay taas sida kiniinka u liq sida kiniinka u liq taas soomaalinimo hadday noqoto adigu askari waa u dhumanaysaa annagu abiy axmed baanu far ugu yeedhaynaa far hadalkaas si faac u dhegeyso far baan walle iyo bille iyo talla ugu yeedha abiy axmed uuna noo iman hayaa ka sheekee ka axmaarada ee gindhidh iyo gondar joogaanu far ugu yeedhaynaa ka tigreegaa garhkana haysta annaga ee shalay aad qalbi dhagax u dhiibtay ayaa maanta garhkana haysta jabuuti iyo nfdn way nala socdaan
somalilan hal faran ugu yeedhan wayna la socotaa yaa ku ciirsanaya yaa ku gargaaraya yaase ku garab taagan inkaar qabow habaar qabihii aana hadalkaba xitaa aqoonin ee dadkiisa gatayow yaa kuu hiilinayo ilaahayna waad ka fogaatay yaa ku gargaaraya marka ilaahay naxariistiisii baad ka fogaatay oo khaa'in baad tahay dadkii iyo shacabkii iyo ubaxii soomaaliyeed baad gadatay yaa kuu hiilinaya farmaajo su-aasha adaan ku weydiinayaa ilaahay haddaad taqaanidu ila bila'aadan baad tahay kolley ila quraanjo matidee bila'aadan baad tahay yacni aqligaaguma wuxuu ku siiyey maanta jubbaland baad carqalad gelin kartaa jubbaland etoobiya laftigeeda iyadaa u talisa taas inaad ogaatid oon ku ogeysiiyo horta caawa waan ugu talagalay allaahuma hal ballaqtu taa inaan ku ogeysiiyo caawa waa ugu talagalay ciidamada amisom oo gagabanhaya waxba ha gagabanina waxba yuusan xaarka iyo kaadidu idinku dhegin cabsida etoobiyaanka awalba waa niqiinay hor annagu abiy axmed baanu haynaa oo haddaan doonaan wejiga waxa weeyaan boorashu marnayna haddaan doono may fahanteen axmaaro annaga noo sujuuddaa tigree annagu noo sujuudaa annagaa ku qaadina meesha addis ababahay yaa oramana reer kuush baan islannahay i dhegayso waxba ciidanka ha u dhundhumana ciidamadaasuna waxaan leeyahay hadda waad waashay wallaahi ilaa shalay way kaaji waayeen oo way xaari waayeen ceebtaa iyo inkaarta ayaa usoo jeeday etoobiya uma gurman karto kamana hadli karto xitaa kama hadli karto yacni xataa war ciidanka naga sahla ma dhihi karto because anaa u taliya who I am anaa heshiis la gala etoobiya anaa dhex fadhiya etoobiya anaa farsa ugu walaaqaya taan doono anaa ka qoraya yaan ahay anigu jubbaland baan ahay axmed madow baan ahay soomaaliyaan ahay soomaali galbeed baan ahay anigu ma ihi axmaar mana ihi tigree mana ihi wayaane mana ihi kii qalbi dhagax deegatay ma ihi anugu kii xamar qarxinayay ma ihi kii islaaxa iyo nabadgelyada iyo wanaagga keenay ee loo maqhraatay kacay jubbalandarkaan ahay ee ogaadeenayaanka aan ahay ee soomaali galbeed aan ahay ee goobta ay axmed guray baan ahay anugu ee xamar ee goobta aha baan ahay ma ihi adugu kaa tahay anugu taasina waa taas weeye waa qodobkaas qodobka labaad ma ahan dee way dhaaftay nimayo allah sahle waxna waa wax iska ciyaar ciyaara waxna waa wax dhaba kaadi badana bay soomaalidu tidhaahdaa waa loo gogol badiyaa dee ma ahan kaadi badan waa loo gogol badiyaa xilli buu leeyahay allah sahle xilli buu leeyahay niyo farmaajo bilaash baana halgamayna anagu مرة قبصة فيفا جبلان صوت قرة فيفا جبلان فيفا أحمد محمد إسلام الصقرة فيفا مشرحين تنا صقرة فيفا بدبادة جبلان صقرة فيفا الصومالي قلبنا صقرة فيفا حمر صقرة الله سهله قبنا أنغو صومالي بارناي أنغو مني النبر ينحدين أنغو كما قبنا هاي النبر ينحدين أنغو كاوضا نانو إثيوبيا ملك كسوهرناي eegana goondar baanu tagaynaa axmed guray iyo koobta ku aasnaa waa ka soo qaadanaa xagga naga xiga soo garan maysaan orama xagga naga xigta oramaanu geenaynaa koobta xuduuda ka siinaynaa see wey goobtu waa taas weeye soomaaligu ma gabado mana baqo gobonimo doonkana waa tabtaa weeye adeerow alxaqu liman sabaq baa la yidhi annagu xaqu suu yahay ayaan sheegaynaa goobta waxaa weeyaan wixii ku istaahilaan sheegaynaa guntan xamar fadhida allah sahle ee weliba filla farmaajo fadhida waxaan leenahay xildhibaanada sheeganaya ee qaar ay khaniisiinta yihiin ha ka yaacaan meesha intaanan loo soo gelin ee albaabada aan lagu soo gargaraacin meesha ha dhaafaan qodobka labaad ninka la yidhahdo farmaajo oonan dhalad ahayn oo haddana
dhabjad inuu yahay axmaar ah ay meesha ka muuqato sababtu u wacay askari waxa weeyaan laba xidigla isagoo og kii ka weynaaba anigu inaan tunka hayo isagoo og laba xidigla soo wacay laba xidiglay maanta uu Kismaayo ku dhex dhuuntay ku dhex dhuuntay ha loo sheego dalku inuu yahay dal Soomaaliyeed dalku inuu yahay dalkii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ha loo sheego dalku inuu yahay dalkii Xaawataaka ha loo sheego usoo shiiday YSWL dalku inuu yahay dalkii Garaad Axmed Guray ha loo sheego dalku inuu yahay dalkii gobonimo doonka Soomaali galbeed difaacaya inuu yahay ha loo sheego dalku kan inuusan ahayn dalkii qaraxa ha loo sheego ninka kan waxa weeyaan nabar iyo naxdin labada nin oo habaaran ha loo sheego intaas xamar inaynan mutaysanin in maalin kasta la qarxiyo ha loo sheego saan Kismaayo uga hadlayo ayaan xamarna uga hadlaya caasimadeedii weeye dhiigayga iyo dhuuxayga weeye Etoobiyana uma ogoli Kenyana uma ogoli Shisheeyana uma ogoli Soomaaliga bayuurkaan oo ogolaano waanu soo sheeyiday Etoobiya ka soo faraxashana xamaray waan ku soo socdaa ila gumba ku haysatee gunta ku haysata meel ana ka saari meel taas waa ballan xamaray waxa weeyaan xaal qaado Kismaayo la xeer ahayd Kismaayo la daa ahayd Kismaayo ka weynayd laakiin Kismaayo nabadgelyo weeye adigana qaraxa ka bowle taas waxay ka turjumaysaa gumba ku heshay xamaray ee gobi kuma helin Allah saale kuwii Talyaaniga jaajuuska u ahaa baa madaxweyne noqday dabaqoodi dhay baa lagaaga dhigay madaxweyne xamaray xaal qaado ayaan ku leeyahay Allah saale goobtu laakiin goobtu way ku soo gaari doontaa goobtu way kicin doontaa say Oromaba u kicisay ay Oromo u istaagtay maanta ayay xamaray ku istaajin doontaa dagaalka qaraxa gablanka iyo hooguna uu ka bi doonaa Ilaahay nasrigi Ilaahay ummadda Soomaaliyeed qulubtooda hamidayo oo Ilaahay ummadda Soomaaliyeed cadawgeeda koobaad waa khayr iyo farmaajo Ilaahay ha tuso subhanahu wa ta'ala war aaminta ii raaciya Allah saale aaminta ii raaciya Ilaahay ha ka qabto dadkan qalbiga ka dhintay ee qulubul maradka ah Ilaahay ha ka qabto ummadda waa laba nin oo qaayimeen oo tuugina Ilaahay qulubtooda hamidayo oo muwaxidiin ha ka dhigo oo ummadda Soomaaliyeed wariya anagoo gobonimo doona oo waxa weeyaan Soomaali galbeeda ayaanu isaynay Itoobiya oo dhan Soomaali oo dhan laga horkeenay salka dhulka u dhigna Tigray maanta waxa weey maqale uu ku oodan yahay nimanka waxaan oga sameynayay farmaajo u soo dhibtay qalbi dhagax wallahi billahi taala maqale ku oodani Eritrea wax kama gadan karaan Ethiopia wax kama qaadan karaan ka sheekay xabsi guri bay ku jiraan annaga lahayn awoodda yaanahay annagu Soomaali baan nahay Soomaali galbeed baan wali bacid kalmani marka waxba ku dhuumanin meelaha hoose iyo musharaxiin baa la mamnuucay iyo uca meelaad awalba u soo marto ayaad garan lahayd fulaynimada iyo waxa weeyaan doqonnimada waa ku wiqin anu waa ku wiqin hore waa ku wiqin Soomaali Maxamedna waa ku tiqin eegana tu lagu barto hore lagu yiqinay oo lahayd baad waxa kan xan lagu yaqaanay ahayd xan lagu yaqaan ayay ahayd waxaan doonayaa war bal sheerta ku taabta Allah saale sheerta ku taabta nimayow soona taagta gacanta fikirkiina waa dhiibanaysaan nin xaga kamarada iga soo codsaday Allah qabo Jubbaland ma bariya ku timid adeer Jubbaland ma bariya ku timid goobtii Soomaaliyeed baa xoreysatay Jubbaland goobta Soomaaliyeed ayaa xoreysatay riyada dib habeenkii ayaa la riyoodaa maalintii lama riyoodo waagay wayaanuhu joogeen ayaad maalintii riyoon jirteen eegana maalintii baad riyoonaysaan nabar ya naxdinay Allah saala su'aashaada weydiiyay niman yaa riyada maalinta maadaysan day dream bay tiraahdaa gaaladu Allah saale qofku isagoo socda haduu riyoodo waa mushkila rabbaani waa wax yaani dhibaato weyn weey attentionka qofku kolkuu darawalka yaa gaariga uu wado gaariga qofku markuu wado
waxaa loo soo qorayaa digniin laleeyahay oo gaadhiga yani boorkiisa hore xagga sare meesha attentionkaagu waxaa laga ha taagnaado war attentionkiinii intuu lumay ayaa waxaa taagantihiin taxta 0 iyo 0 eber baa tihiin wareedhaha etoobiyadaad moodayseen horta meesha ma joogto tigreega xilligiisa iyo dhay dreamkiina waa laga baxay eega niman yahow ogaada soomaali galbeed baa carrada xukunta ogaada taas idinna dul qaadan maysa xamar inaad dulmi ku haysaan hadda jubbaland inaad farigelisaan taasi xaasha lilaahi afka laga xurmeeyaa xaasha lilaahi afka laga xurmeeyaa may fahanteen niman yahow shacabkii soomaaliyeed al-shabaab kale ma leh idinka unba al-shabaaba siyaasiyiintii idinku haysay xamar allah sahale markay dhaqaalihaas ku qabateen baad qarax ninka qaramada midoobay uu ka badbaaday kaali su-aashaan idin weydiinayo qaramada midoobay ayaa ka badbaaday soomaalidiina waa la laayay xaggee baad adduunka kaga gedi doontaan tolo ma xishoonaysaan qalbi dhagax etoobiyaan buu ahaa ayaanu ogeyn allah sahale qalbi dhagax etoobiyaan buu ahaa ayay ummadii soomaaliyeed ka qaracsanayd waagii hore eega allah sahale su-aal baan idin weydiinaya anoo ah muwaadin soomaaliyeed oo halgama saxana weliba soomaali galbeeda ogaadeenaya su-aal baan idin weydiinayaa qalbi dhagax etoobiyaan buu ahaa garanay taas xabasho u dhiibteen qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho allah sahale shacabka soomaaliyeed lagu baabiiyey ee kunka isbaadha ay tiilay ee wax kasta la baadhayay ergeygii qaramada midoobay maxaa loo qarxin waayey intaasaan doonayaa su-aasha inaan weydiiyo ii sheega injineer yariisow iyo intii la socotay maxaa iyo shacabka maxaad u qarxisaan xubni meesha ka shaqaynayay ii sheega meesha tan haddii gaala la rabo ilaa injineer yariisow gabadha isqarxisay way joogtay goobta way fadhiday ilaalada unbay ahayd nabar ya naxdin ayaan doonayaa shacabku inay arkaan allah sahle war khayaanada meesha ku duugan inaad aragtaan baa loo baahan yahay soomaali maxamedey haddaad dhagaleedahay soomaali maryooleyey damaney ina damaney waa loo jeeday kii qaramada midoobeed baa baxay sheeko laysla og yahay weeye waxaa la yidhi okay may baxeen weliba cabbaar markay baxeen kii qaramada diyaaradii uu sii raacay ayaa lala eegtay masaakiintii dhow maxay galabsadeen ma soomaali bayna ahayn war dadku ma etoobiyaan ba war heedhaha dadku maxay ahaayeen war miyayna ehel iyo nasab ahayn war waxaasaa yeelayay diintay haystaan diintii ilaahay miyayna haysanin mise diin kale haystaan xitaa shiicadu in la isqarxiyo way mamnuucdo way diiday qaraxu waa mamnuuc bay tiri shiicada raafidada la yidhaahdo allah saale qaraxu waa mamnuuc wanima yahow diinteenna maxamediyaduna wayba diidayba in la isqarxiyo qof laa ilaaha illa laale inaad dishid inaad qabato ood ganaaxdo waad leedahay ood runta u sheegto qofka salaada u tuko waaya xitaa ma dilaysid waxaad leedahay salaada ilaahay tuko يعني من سرق طلا فقد كفر ويان فرق ياسا دين دحيا الدين نستيحة ويا مركا أسامة بن زيد بان هبين دحلا يسو قاطي لكن تمحان أسامة بن زيد أسو قاطابا فرماج جابا وحا ويان شاكادا وكدن بايه إيا خيره oo waxa injineeriyiiso lagu dilay oo waxa weeyaan shacabka lagu gumaday oo ergay qaramada lagu badbaaday baa waxay tahayba sheekadaasi nimayo maxaa been la soo sheegaa marka hawiyuu markuu garo shacabka koonfur ee magaalada markay ay dhig dhahan ay kaceen ay gilgisheen waxan un bay arkayeen soo moogidin gooyin gobta garab hala siiyo abkay abgaal garab hala siiyo xilkan ha ka qaadaan ha ka turaan ugaadhan cayayaanka oo wadaniga ahayn oo dhiiga shuhadada iyo shacabka iibsanaya wargooyin ha loo kaco oo hala dhaafiyo wa ilaa hadda taas sameyn weydaan waxaad u diyaar garowdaan Soomaaliya wax kale oo aan u dhaho garan maayo wax dambe waxaan ka hadlayaa waa waaqic caama wey wax dambe oo idin haray Soomaaliya ma jirto ilaa in inta la isugu yeero magaalooyin gulo lagu wada xidho miinooyin kadibna ay idin la boodo qaramadii midoobay inta la sii daayay iyo rag la lahaa gaalo ayaa waxa la eeganayaa wasaaradihii farmaajiya khayr meesha ku hayeen dad ul gariir ba ka dhacaya ciday ka socon lahayd ay ka socodsiin lahaayeen nabar iyo naxdin hal la weydiyo war hadda fadhiga hal laga kaco Soomaalidu niman yahow ha gilgilad Soomaalidu
annagu intaasaanu cadowgii soomaaliyeed aan la hardamayna haddaanay soomaalidaas war waxaan iga hadlinayay waa soomaalinimo wey war waxa iga hadlinayay waa amniga ummadda soomaaliyeed wey war gooyin nagu sima intaanu idiin manin intaanu idiin kolley nagu sima ayaan ilaahay soomaaliya saa uma sii ooyi doonto annagu Itoobiya meel baan saarnay allah saalay hadalka dhageysta sida keenkana u liqa keeniyana meel baanu idinka saaraynaa Soomaaliya allah saalay amma intaanu idiin soo socono ayaad noo sugilad ummadii aad u leenaysaan dufco iyo jamaaco ayaad masaakiinta u leenaysaan Soomaal wargooyina inta nagu sima kolley gob ma tihini arrimahan Jubbaland iyo doorashadeedana khaniisyada hatta waa khaniisyada ilaa iyo eega filla farmaajo farfadhiya xildhibaanada sheeganaya khaniis dalka Soomaaliya inuu joogo waa mamnuuc anti way wadaniyad bayna ahayn diiniyan bayna ahayn xeer bayna ahayn hatta Soomaalinimada kuma jiro nin khaniisa intuu safars inuu hadlo wallahi iyo billahi ya tallahi waa gunnimo inuu istilo ayaa dhaanta kaas war khaniis kolku dalka joogo sooma ogidin qoom Luut in ilaahay halaagay subhanahu wa ta'ala maxaa loo halaagay qoomkaas qoom Luut baa loo jiray nabi baa loo soo diray de xumaan bay sameyn jireen wasada xildhibaanka kan iyo kuwa farmaajo iyo weeyaan inay wada khaniisiin baa laga yaabaa we don't know annagu ma garanayna marka dalkuba inuu ilaahay hal mal rogmeeda ka yaabin uu rogmado umadu wada baabaado war wax kasta la kowsanaya balaaya soo socota waxa kan hal la iska qabta yaa khaw hadaad gobtihiin annagu idin malihin Ethiopian la dagaalamo qoriga qaato sida gobonimo doonka Soomaali galbeed de baasha dhinaca u dhib idin malihin wax qarax leeyahay wax al-shabaab leeyahay ma jiraan idinka leedin bartilmaameedsan haya waxaanina diin kuma socdaan al-shabaabna ma jirto wallahi oo billahi oo tallaaya khayaano lala dagaal wadaniga Soomaal lagu baabina lagu difiir gooyn hayo ayaa meesha ka socota kolka away Allah yow dadkii uu sayidku u gobiyay away ya dadkii sayidku u gobiyay away abgal wargoo inaad kacdaan weeyaan oo Soomaali weyn aad kacdaan weeyaan oo habar gidir aad kacid weeye wadaneed inaad baadbaadhaan weeyaan waxaan kolkaan saaleeyahay anigu Soomaali ka saar maahan meeshay sartu ka qulsan tahay baad degantiin idinku dadka baaba'ayayna waa dadkiini Jubbaland nabad weeye maxaa marka dadkiina u baaba'ayaan ama dadkana u madhan waa gunnimo fadhiga inaan ka wada kacno waxa weeyaan oo la wada gilgisho oo Soomaaligu shaqeeyo waryaa aniga wayaana wuxuu igu sameeyay wada ogtiin Soomaali Maxamedey niman yahow maskaxda yaray haddii waxa weeye la isqadarinayo oo Soomaalinimo jirto aniga waxa la ii geystay waa la ogyahay xeer iyo taalo la ima dhiganin anoo Soomaali galbeed wariya dhalinyartada iyo kurayga yaryar jigjiga la qaysto ayaa la iibsanayay oo Garowe iyo waxa Hargeysa lagu gadanayo diyaarada la saaray waxa la igu sameeyay anoo Soomaaliya cid lagu sameeyay ma jirto cid aan haysta miyaad aragteen cadawgeygii baan arkaano waligay iyo Allahay aarsi Soomaali u soo jeesan maayo cadawgeyga intaan arko kolkaan salka dhulka u dhigana waan garanayaa ma maqasheen taardhuleed away taardhuleed xagwaad hadda taardhuleed oo taqaanaba Soomaali oo wadinaya taardhuleed yani shalay uu ahaa markii la kari lahaa u baxbaxsanayay hatta waxa la warahade adduunyadu waa leedo kolba dhaco isroocdo way isroogi kartaa baash siyaasaddu waa dhille oo way isroogaysaa taardhuleed inay wax la yaraa hard balaydi maya intuu fiyoweeda qabsaday wuu may aan la meesha loo arka ana la soo qabto waa kan weeyaan waan dhibaya waa la baxbaxsan away oday ninkii qodax miyuu ahaa odaygii xildhibaanka isaguna oo khaniiska kala isaguna away kii kale isaguna warhadada waxaan wax la eegan karo ceeb way umadu way dhax fadhidaa dadka noocaas ayaa filla farmaajo fadhiya ma ahan filla Soomaaliya meeshu niman yaw meeshu filla Soomaaliya man taasoo dhacaysay oo arkayseen ayaanu dhag jala qusin weyni waayo geesigu wuxuu dhintaa oo waxa weeyaan geesiga la waayaa kolka dalkiisa la wareego ee dadkiisu isdhiibaan anagu ma naan isdhiibin haddaba Soomaali Maxamedey haddaad gobtiin niman yahow gobayna wada noqon gunimadan lagu waari maayo horey baa looga hayay sayidkii idoorwagaash iyo kufriga wacda law yaala xaqana laga hayay doorweynaha xaqana waxa laga hayay
wuxuu ahaa doqonkii Saleebaan kolkuu dibigu jiidayay taayeerku meeluusan marin doona ma jirsiisay war heedhaha waxaa loo baahanyahay waxaas oo dhan inaan isku wada kakabno isku wada darno allah saale inaynu la aadno gobonnimo iyo badbaado ummadda Soomaaliyeed lagu badbaadinayo intaa miyaa laydinka heli karaa haddii intaana laydinka heli maayo oo nabar iyo naxdin baa idin hor taagan oo idin hor fadhiyo oo kuwa annagana iibsaday haddii kolkaa maslaxadaadii baan hayaa caawa teedii baana maslaxadaadii waa in lagu mudaharaadadii yes of course in lagu mudaharaado waxaa weeyaan wiilka kan qaxootiga ku bidaaraystay allah sahle iyo boorashka wiilka kan boorashka waxaa weeyaan ku bidaaraystay siyaasiga iska dhigaya afminshaar iska dhigaya dhiigga Soomaaliyeed banaystay waa khayre aqoonyahan iska dhigaya saas dan ninka aan ka lahayn muwaadinka dalkana sidee buu dan uga yeelan karaa sidee buu wadani u noqon karaa sidee ayuu wadani u noqon karaa yaa ii sheegi kara taas يعني waxyaala macquul waxaan maqli jiray garo hadda garo cigaal shidaal balaga ya Allah naxariistay weynay garan weynay gaadi mujrim khaa'in iyo tuugo dhan dalkii uu soo yimid waxa loo baahan yahay marka maanta hadalkii oo duuduuban Jubbaland adar aana ka dhan way aano ka dhan Jubbaland iyo shacabkeedu way israacsan yihiin nabar iyo naxdinay waana ceebaysan tihiino Ethiopia soo cabaadaysan u soo ordaysan horta annaga idinka horreeyna gobonnimo doonkiya annagaana Ethiopia u talina taasna waad ku fashilanteen qalbi dhagax dhiibidiisii oo Tigray oo waliba qolo yar oo laangaab ah aad waxa weeyaan iska dhaadhicinayseena waad ku fashilanteen raali gelina maydaan ka bixin qodobka saddexaad ee ugu dambeeya ee caawa ku fashilanteen baan farteeda ka saaraya shaarta ku sii taabta Allah sahlay waxaad soo wacday farmaajo Abiy Ahmed war nagala tag baa lagu yiri cayayaan ku dhalay waa xishoon weyday waxaad tiri askari Ethiopiana ami Soomaa ayaa Kismaayo qabanaya Kismaayo hadda Soomaali tahay adigaaba iskaleba adoo tii hore wayaana adoo ogaa eegana askari laangaabo ahmaara ah hatta aan ku shiti ahayn anagu ku shitigan eegas wadanaa maxaa ku geliya afka oo miskiin oo mushaarkiisa yar ee waxa weeyaan qaata $500 qaata maxaa aad u khasaaraysay oo afka uga gashay maxaa sabeenta u sheegtay maxaa waxa weeyaan kolkii ugu dambeysay kugu kalifay khaniisyada Allah salay khaniis aragiisu ummadda Soomaaliyeed dhibsanayso wallahi been sheegmay khaniiska anagu waan dhibsanaa arko ad baan u nacbay qof kasta oo Soomaaliya oo dhig Soomaaliyeed lehna khaniiska inuu arko ma jecla khaniiska waxa jecel inuu arko ahbalka iyo qofka niyadiisu dhimatay eg damir ahaan iyo waxa weeyaan bila aadantinimo ahaanba waxa weeyaan u dhintayba arkaya oo jecel inuu arko khaniiskii ayuu TV-ga soo istaajiyay sidii isagoo oo waxa weeyaan nabar iyo naxdina oo la wareegay magaaladii Kismaayo iyo Jubbaland hadduu Soomaali ahaan lahaa isagaaba iskale laakiin Soomaali buu ahayn marka kan uu soo dhaqmayo kolka horena qalbi dhagax gatay eegana uu soo adeegsanayo waxa weeyaan Ethiopian waliba askari laba xidigla taaqarkii laba xidig leh ku jawaabay hadaba askariga soo adeegsatay kii maamulaya ana maamula qof ha ku tiraada taasi waa jawaab cad weeye waxaana ku siisay maanta Ethiopia because aniga Ethiopia u taliya hadalkaas aamin ama ha aaminin amarkayga shaqaynaya anoo ah Soomaali galbeed shidaal baan leeyahay dhulkayga qaniya aniga laysa sabaa maanta Allah sali wallahi iyo billahi iyo tallahi kala sabaay waa Soomaaliga adeer Oromiya ahmar kay maanta u kala baratamayaan hatta difaacan rule ku sameeyay Ethiopia ee gabigeeda waxa weyn ay kala shaxaadayso ee jeceshay maanta u kala baratamaysa aniga hal eray haddaan idhaahdo hal hadda nabar iyo naxdin ay dhageysta kolla qalbi dhagax iibsado Tigray ka gata kolla askari xun oo uray waxa weeye soo adeegsado anagu aabihi u talino soo adeegsada dalka kan Soomaali galbeed Ethiopia maanta isaga u taliya raalina kama ahaan hayo faragelin baa tidhi wallahi iyo billahi talaahi haday ka soo baxdo anagu Ethiopia anu kaga sinayna qof ha ku tiraataasi anagu
waxaa weeyaan jiritaanka ummadda soomaaliyeed baanu raalli ku nahay badbaadadeeda ayaanu raalli ku nahay iyo weliba nus allah sahle annagu ilaa 3 qarni waxaan la soo halgamaynay cadowga jiritaanka ummadda ka soo horjeeda ee la yaqaano Ethiopia ayaanu ishaynay allah sahle maanta kaasaan ku faanayaa Soomaali baan ahay pure anta banaanka taagan xuquuqdiisa oo dhanna banaanka loo soo dhigay goboho gayigiisina gacanta ku haystay Soomaali galbeed allah sahle degma aan haysan maanta ma jirto awoodiisa ku faanaya Abiy Ahmed iyo Ahmari iyo Tigrayna maanta wada xoog sheegto oo hanjabaya oromana gacanta ku hayo ana maamula yani wax kale ku garmaysid ana maamula aniga hadda kor baan Ethiopiana sarnay xilliga siyaad baro iga sheekay wuxuu niyow bariga siyaad barre dadka markaa waxay ku dhihi jireen ahna inta sugayna af Soomaaliga sargaal Tigraabuha ahna haddaad maqashaan dee waay ahna waa gobonnimo doonka Soomaaliyeed goobta way يعني وزيرك وزارة الدفاع ahna ku-xigeenka ahna maaliyadda ahna يعني haddaad maqashid gobonnimadaanka ahna Soomaali galbeed ahna ninka khayraadka dalka Ethiopia ahna u taliyaha Ethiopia ahna la dhageystaha amarkiisa ahna wadaniga soo dhigiisa ahna laga haybeystaha haddaad maqashid ahna ma soo jeestaha goobta ay dagaalamaya xabadda ridaya ahna badbaadiyaha ummadda Soomaaliyeed ahna u dulqaataha gaf kastay Soomaali ku samayso waa Soomaali galbeed wey ma ahan nabar iyo naxdin intaasi qof ha tiraahdo inta taageersan nabar iyo naxdin ya intaasi qof ha tiraahdo waan aaminsanahay inay qof dhahaysa hadday Soomaali yihiin wey dalka kan Soomaaliyana waxaana Soomaali ahayn annagu kolkaanu soo jeedsano inaanu aragno raalli kamani eegaanu idin sheegaynaa ayaanu idin sheegaynaa Kismaayo iyo Jubbaland saasaanu u difaacaynaa Xamar Garowe Barawana saasaanu u difaacaynaa dalka kan annaga soo dhimanay annagaana ogolayn khalkhal military iyo khalkhal khayaane iyo dad la dhiibo inaan aragno iyo cadaalad darro iyo wax afduuban annagaana rabin afduub ma jirto argagixisana ma jirto labada nin baa eega wata waana contract ay wataan weeyaan iyaga iyo Aala Sacuud iyo nimankii kale ee waxa weeyaan maansalguleeda cuni jiray reer Dubai annaga ka shidaal badan oo ka khayraad badan maanta waxay ka yaqaanaan Soomaali galbeed waxay ka yaqaanaan dhulka kan ay baashu bawudahayso maxay naga yaqaanaan annaga waligaaba waxa weeyaan Sacuudi Carabiya iyo Aala Sacuud iyo Boqor Salmaan u orod kolna kii Dubai u afdhuuble kolna askari Ethiopiana wa kolna qalbi dhagax iibso hala tii aan ku lahaa shalay toole taar dhuleed ayaan maanta adiga kule waan ku imanayaa Sambaloolshe iyo gargariirkiisi dib ma horta ragii away iyagu hadlay ma maqasheen away Sambaloolshe shal hadlay away waxa weeyaan away engineer yariisow away taar dhuleed waragan u baana waragas away ragaas xagay aadeen yani su'aal shacabka gayiga Soomaaliyeed gobtii taanu gobtaan la hadlaa asalka gobtaan la hadlaa anu gunta lama hadlo iyo nabar iyo naxdin lama hadlade anu gobta Soomaaliyeed baan la hadlaa iyo malaayintii u dhidhiday waxa weeyaan gobonnimadaanka Soomaaliyeed ragaas meel ku sheega xagay joogan adaladii looga bartay geesinimada away khaniiskii birriq laha eeguba hadlayaaba kaasi warkaasaaba hadlaya khaniiskaaba hadlaya laakiin shacbiyadeeda Soomaaliyeed ba ka ku filan khaniiskaas inay sawirkiisa qaadaan oo meel kasta dhigaan inta daawanaysa inta sheegarayso waan ku codsanaya waayo walaalayaal anoona Jubbaland ba ka hadlaynin khaniis waxa ka mamnuuc dalka Soomaaliya inuu meel ka mid ah ka muuqdo حاشا لله وريدا قبان هاي maxay ku dhacay qobba laha khaniisyadatan uu farmaajo meesha soo saaranayo warwa maxay taa waxa kan waxani wax Soomaalinimadii iyo waxa weeyaan dhaqankeeni wanaagsan lagu yiqiinima yani waa ceeb way wax laga xishoodo way inuu khaniis fil farmaajo fadhiyo waa ceeb waa diinka bax way waa yani nacdal ilaahay oo maalintii ilaahay keeno wallahi oo billahi oo tallahi Soomaaliya ku soo dagaysa way ilaahow nacdasha ka badbaadi gayiga Soomaaliyeed ilaahow nacdasha ka badbaadi gayiga Soomaaliyeed because I believe inay maalintii nacdal soo dagayso oo waxa weeyaan cadad ilaahay ku dhacday oo malaa'iktu ay heegontayna Soomaaliya halaagto because khaniis ba jooga qomolood waa kuwaas oo kale oo moogti dad kale ma ahayn dadka nooca u dhaqmay khaniisyadan way
eega kaasaa wuxuu fadhiyaa filla farmaajo uu soo ordiyo markaasuu tv ka hadli war adigoo khaniisa hadda hor qalb dhagax dhibidiisa ka hadashay eega maxaa ku soo fadhiisiya haddana de waxaan qabyaaladu lama odhan karo laakiin waa sheekadiisu sheeka khaniis weey dee adeero waxaa weeyaan farmaajo waxaa weeyaan fudaydkii baa ku dilay meel kasta faraha la gashay laakiin xasbuka noo yaraa samir waan ku soo soconnaa annagu haddaan nahay gobonnimo doonkii haddaan nahay shacabkii soomaali galbeed ee goobta ahaa annagu waanu soo soconnaa xamarna waanu iman haynaa xamarna nabad baanu ka dhigaynaa ilaahay nasrigii shacabkayga goobta ee xamarna gobonnimaday qaadanayaan والله يبيلي يتلا قرح دعيا يديقا سمينا أنا أدل قادر إسكابا دا جبا لانا صاهد القاطو أتكو عيبودو إسكابا دا النبر ينحدني محشاطي هي غير كنينك لو حيرو أدنا سوق يسو محشونا يسيد وحو كو عبرا قاطو أو كتو سارا قاطو أو كو وايا أركو الله سهلي نبر ينحدن وي أركت لكن dhibaatada ugu weyn ee jirta ala saale dhibaatada ugu weyn ee jirta waxay tahay hadduu durdur iyo xareed galo Soomaalidu Soomaalidu waa jin caadi durdur iyo hadduu xareed galo doofaar abidki ma daahiro dadka doofaarka la yiraahdo horta gayigeena aad ugu badno lagama dhaqdo wadamada reer galbeedka xitaa waa laga beertaa iyagoo gaariga ku wada kulkay ku ag maraan maskaxdu halka sanka markuu ka galo ilaa qadaadka ku xanuuni oo wallahi qurmuunka ka soo baxay yaani doofaarka waxa ilaahay u nacdalay buu qaba kolka waxay tiri Soomaalidu iyadoo oo aan iswaalwaalayninba siiro degan oo hadlaysa hadduu durdur iyo xareed galo doofaarde abidkii ma daahiro waa hadal dhan way yaani wasala fikra hadal dhan way yaani taqontu isma garato aranka waxa la yiraahdaa daba qoodhiga aranka adduunka ma jiro aran waxa la yiraahdaa caada qaat daba qoodhiga hadda daba qoodhi maqashan waa aran يعني وعامل عدد عامل أرجع مقصد يعني وجميسي وأديجي هدو جميسي قل انتحتا وسوي هلا واسكري مقال هبلا يقبو دتكيسا كما آمن قبو دلكيسا كما آمن قبو حتى عيدا كما دحتو يدي سئلالين هياي واجنبي يتوبيان محاد كوكتين waxay doonaan bay sameeyaan حتى xaaskiisa inay kufsadaan baa macquul ah oo yaa diidaya sargaalku soo watay inaa de farmaajo guriga ka bax gabadha uu yaraha baahanay caawa way dhici wallahi iyo billahi iyo tallahi beenishay gumaysi wax kasta ka suurtooba miyuu diidi marka nin dadkiisii iyo haliyaygiisii gadanaya islaantiisii inuu dhiibada waa iska qasab beenini sheegi maayo waxyaalaha aanu dabeecadaha gumaysi ku aqaana waxa ka ninkan qalbigu ka dhintay uu fogaaday quraan saar xitaa uma baahna in la rajmiyo kow laga siiyo la dhaafiyo Soomaaliya waxaan ka ahayn kuma daahirayo xildhibaano khaniisi uu keenay dalkiina uu waxa weeye gabigiisiiba waa faruuq ka baxay wuxuu baahan yahay marka dalka dadkii ilaa inay badbaadsadaan oo ummadda Soomaaliyeed inay kacdo oo badbaadsato war farmaajo cidna la qabiil maahan khaniis oo dhan buu soo urursaday waa nabar iyo naxdin waxa weeyaan argagixisay afduub yariisowna eega isaga dilay xamarna intaasoo qarax buu ka sameeyay waa khaain waa nin damir ka dhintay Ethiopian ma ahan laakiin waa garac Ethiopian iyo waxay kale yihiin garac Ethiopian ilma xaaran gaaladu dhabjeed ba tiraahdaa waxyaalaha ilmuhu markuu garacnimo ku soo goro baasterka waa bilan xariis baasterka kala aad kan waa baaster Ethiopian way يعني باستركو احترام مالك وقرع هذا أرد احترام ما يشو كان هو باستر because هدو إن صومالي هي وحاس أو لقى هذا لا أيو هالمركز جواب لا فرماجو yes أنا قاله الجمع سحنة هدو لا دي أي صوماليا مربو استبق بالله لا يو نجوبا بانه يقول الرفاي ساي إبو نجوبا بانه يقول وروحها كان يدب قول إني ما كبدن دي أنا مركز وحال لا هي وباستر yes باستر ما حشوده ما يحيحو وحنا اسكما فلو والدنيا ما ايغو شعب كيسنا ما دريالو بل لكن وحو كفكره بربرك دلكيسا iyo baabinta يعني waa nooc kalifay darbi jeef weeyaan wuxuu kala daba qoodhi xun inuu noqdo marka cabdi lay ka daran oo umada laaya
oo baabiiya oo yes man ah ها هو رئيسكم يا أيها الصوماليون يا أيها المريوين مدحوينين وكاس خريسك إلهين نعضلي كحل دبانك كدك توي مدحوينين حمر انتو دحفر يستي تتكلم قرحين هي أمرك بحين هي وين مدحوينين أنا حشون هاي نويه جبلانو النبضة هنقولي وسو تاجية إثيوبيا لسه هالليه إلا ديديو سراكيش وحيان العقد الصين هي وين مدحوينين Ethiopiankii kismaayo joogay ayay god biyo u galeen maanta god bay biyo u galeen waayo nabadgelyada gayigayba qashqashaadina isku dayeen farku gabad way maanta inteeno salaamno waraada salaamno xilka waad ka tagaysaa tanankaas oo dhageysa hadalkaas xilka waad dhaafaysaa xogna waan hayaa waad dhaafaysaa adigoo Ethiopiana waxa ku dhagay kobtaas qalad weey taa inta haddaan kaga imaado ummadda Soomaaliyeed idinka waxaan in dardaarmayaa Jubbaland midnimo shayga la yiraahdo waa number 1 waa minted midnimo iyo isku tashi nagu wax kale idinka ma rabno Soomaaliyeed idin mana soo socono laakiin waxaan doonaynaa Ethiopia markaan salka dhulka u dhigno ee aan ka soo farxalano idinkoo sa u duulayo oo Soomaali oo gob ah oo federalismka sayta ugu dhaqmaya nabar ya naxdina meel kaga soo haray inaanu idin soo jeesanaano rabnaa nabar ya naxdin inay wax qasqasaan oo isii joogan taasiyadu tu nin goobi daawan kara ma gooyino goobtu ma daawan karto waxa kan khaniiska keenaya wuxuu doona keenaya ay ma ahan waxaan aan ka hadlayay wax dhaba way xildhibaan khaniisa way يعني أداد ما أنت الجامعة سحنا عيتمين بين باشكتن ما عيتمين أنا وحن ما ممكن كوار كيبان شيء اللهم هل بلغت ورا هذا بهاشا رنت هدين ده الله يسكسره الله سهله رنت هدين ده الله يسكسره تلا ما عيتمين فرماجو كان بدك حبوب قطي ملايين الصوماليين لم باقي لدي يعني استثناء هل ما بحيي رالي قليل ما بحيي ورا دالكا إيا دادكا أيو كاقال الدولمي إتوبيا يكون معصوم الشعب الصوماليات إيا هليي صوماليات إلا نو أبتي نو واحد ملاقايا أبولوجيز ملاقايا والشعب كاقال حتى رالي هذا قلوبتي إني أن راوعي والحتى واي تاقيرين إني أن راوعي كرالي هذا وما الصوماليات وحاوي أرنتا لو سوي مجرتا تي حمر قلب الدقح بايا منايا أو قتل انتونا إلهي نسرقي Soomaaliyana qalbi dhagax ayaa iman haya oo gabro kala noqon maayo wuxuu noqon haya midayaha ummadda Soomaaliyeed Allah sala qalbi daag kani uu yaaci doona uu tagi doona aakhirkana isaga sanbaloolshe iyo khayre iyo taardholaad iyo rag kale oo fara badan xabsiba u dambeeya yes Ethiopia ana u taliya maanta Ethiopia ana u taliya hadda dawladaha reer galbeedka tagtaana shidaalkayga ayay wada hunguriyanayaan nin kasta meeshu tago ana ka dib tagay oo hadaan doonana cafin hadaan doonana xiri laakiin ragga qaarkii ma cafinayo sida khariisko kale ma cafinayo daano ma cafinayo sida khariiskaas oo kale iyo nin kale godax barre la yiraahdo kale iyo ma cafinayo Allah saale kii hadda qarax ku dhaawacmay oo farmaajiye khayr ay qarxiyeen oo la yiraahdo magac lahaa oo injineerka ahaa injineerna ma ahayne waxa weeyaan kaasaga waa la qarxiyay waa kaasagu waxa weey haduu noolaado واسكا ديننا واسكا عفينينا إنك صونا نعفيه دهن وحنا لكن العفين دونين دنبيادة العلوس يدالك الله قلي خنيسيادة الله كينا رقي كيني يا رقي وحاويان إيبسدي يا وليبا رقينا كو وطاقنين فرماجي خير إتوبيا نوشي بسيهم قرينا أناقا أطلنا إتوبيا نولنا حاجة كامسو جرتو نصاوع عدي أناقا أي وانا نسو قرمانينا نصاوعا وقالك انت خوي ما ضفيل فرماجو انت خوي ما تقبطا حبسيغان كورا دحين لا ان ايدا كو دلبان لا خنيسي امدا كينيا خنيسيدا ماشي كينيا انا كوغو دلبان لاهين وي خير كله اما احسان كله او كو يالا Soomaaliya ma jiro waayo dalkii nabadgelyo waad ka keenay weeday ummadii madaxa isu wada gelisay khaniis baad meelaha keentay waxa weeye waad ku kacday shacabkaagi baad iibsatay hala inta ka badan gobonimo doon kuma daawan karo geesi Soomaaliyeedna kuma daawan karo shacabka goobta ummadda Soomaaliyeed kuma daawan karaan dalka Soomaaliya waa wada Jubbaland way
xataa ogaadeenaya waa jubbaland NFD waa jubbaland somaliland waa jubbaland jabuuti waa jubbaland NFD waa jubbaland xamarna waa jubbaland adigay ku taala kobtaad ka cabays Allah saare ay xagee dhanka loo rari rag baa dhaaway ceelkii buu adigay ku taala kobtaadu aan baxaysid aday ku taala dadkan hal qoys iyo hal mid iyo hal family weeye we are one nation one Somali one region hal baan nahay calankaas dhaxda ayaana wada midaya iyo xidigtaasaana wada midaysa u soo gobanimeynay oo u soo daraawisheynay oo u soo Axmed Gureeynay oo waxa way Itoobiya beerka kaga fadhina kobtaasaan u taagannahay namana tufi karta iyadoo eega namana liqi karto hadday hadal tiraadana annagaaba kobta u taagan xagee ka hadli xagee u soo wacda Abiy Ahmed miyada hadli kartaba intaasina qof ku tiraada Allah sahlay aday ku taala marka shacabka Soomaaliyeedna waxa uu yaala mudaharaad ka dharan war qaybintiina lagu jira oo xaalufintiina lagu jira oo dhirtiina la baabinaya oo idinka la kala geenayaay nabar iyo naxdin waa cadawga Ilaahay waa cadawga gayiga Soomaaliyeed waa cadawga jiritaanka shacabka Soomaaliyeed waa cadawga waxa weeyaan iibsanaya ummadda Soomaaliyeed hal iska qabto cadow kale ma leeyin waa cadawga diinta islaamka xitaa oo khaniisyada keenay khaniis bay baarlamaan iyo xildhibaan ka dhiganayaan Soomaaliya wataas waxa la idinka rabo walaalayaal badbaadada dalka Soomaaliya hata Jubbaland iyada horta kiniinka dib u liqay candhuuftiisi dib u liqay Ethiopian kii ay ka farka badataay sheekada halka ku xidha Jubbalandna doorashadeedina way dhici si xalaal oo muuqatan way u dhici raggii u soo halgamay ee doorashada galayana Ilaahay nasrigi kay rabaan bay dooran hayaan taasina waa shuunteeda wax ka galay farmaajo iyo khayre ayaan jirin Jubbaland iyagu xamar bay nabad ka dhigi waayeen horta tiina bal nabad ka soo dhiga markaad xamar nabad ka dhigtaan Jubbaland iyo arrimaheeda soo gal intaasina jawaab idin ku filan oo waliba muqnica weeyaan aniga xaggayga ama ka shacab ahaanba shacabka Soomaaliyeed goobtaana u hadlay Allah saale waa idin ku kasban tahay Jubbaland ma ahan Ethiopia Jubbaland waa Soomaaliya weeyaan yes annagii shanta Soomaaliya ka tirsaneen baa kule ereyga fahan qobnaha ku tiraahdo aad iyo aad baad u maasantihiin Jubbaland ha noolaato Jubbaland FIFA farmaajo ha dhaco Ethiopian ha burburo ha dhacaan annaga madaxa kaga taagan Ethiopia Allah saale caana ka dhan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal waa soo khatimayaa waxaan doonayaa balgamcaayna soo taagataan intiina eega ku jirta fideogana ummadina la sii wadaagtaan baan doonayaa sheertaas inay meelo badan gaadhaan doonaya oon jeclahay guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaya ummadda Soomaaliyeed ee goobta ah cadaqaataha duxduxlaha afminshaarka xaaraan quutaha khaniiska ka keena iyo isaga laftigiisa ha dhacaan Ethiopia ha burburto wallahi way burburtay kobtaan waan u fadhiyaa inay kala burburto Axmed Gurey qabrigiisina waan tagayay goobtiyay inta dib isugu laabataan Allah saale Allah hayow dad lama caasiye daris abgaal baale Daawud baa iskaga jiray doqoninkeed baale waragiisa loogu gobiyo baan doonayaa inay kacaan yaa khaw inay kacaan xamar qaraxa kuma jiri karta inaad badbaadisaan baan doonayaa qof iyo labo ayaan siinayaa iyo saddexba gacanta soo taagta Allah saale badbaadadaan u soo halgamaynay ina si wadaan baa la doonayaa ummadda Soomaaliyeed baa la doonayaa dalka inay badbaadiyaan shisheeye kalkaal iyo waxa weeyaan cadow kalkaal iyo nin dhabjada iyo waxa weeyaan pastor dalku uma baahna iyo khaniis dalku wuxuu baahan yahay wadanigii lahaa ka naxayay dhiidhiyay dhiiga u shubayay ee waxa weeyaan fircoona ayuu baahan yahay Allah saale dalku Jubbaland oo kaliya ma ahan dalka Soomaaliya shanta yihiinba badbaadadaas ay rabaan shantuna waa mid weeyaan fikirkaana gobonnimo doonka Soomaali galbeed oo dhanba aaminsan gobba xaggan idinka jirta adeer guri idinkama jirto xamar bay guntii fadhidaa waana nabar iyo naxdin
الله صالح حرونتا واي نجاسيين حرونتا واي نجاسودي او والله او بالله او تالله قوبتا يدا يعني نجاس عادي وي وايو xildhibaano khaniisiya jooga nijaas weeyaan anigu hal gubadh ila halkaas ninkan xilka laga qaado shacabka ku mudaharaadan war xildhibaan xalaala oo goba tarsani waxuna la keenay wadani oo ninkan bedeli kara Allah saale oo goba ho Soomaaliyeed yaa akhay mid kale aan hurdin oo aanan ku jirin day dream aanan ku jirin soo jeedade Ethiopia maanta annaga u talina annagoo ah gobti Soomaaliyeed ba u talinadii Ethiopia yani aynu ku jirin تهميش كان قلوب تصيحدي قلوب ميت أنا هين أيا الربا أو سوجي دو وعي الله سعودي يعني تلمان تقول إن منطقة قرنا يا شعب كصومال قبل واحد دون يعني ماشي أنفرتوا في أسرع أنا يا الربا أنكم ما دون إنه دحلية في من شهر يدب قودي يعني كجرا هردو راي دريم مالن الرياضة يا وما بانن قب ليقانو الصوماليات إنه يحمر كسب بحان أو حل دبانة أنت قبتي يسكت حصاران وحاويان انت خنيسيدا على الربا قبتو اني soo taaytaan rabna aad iyo aad waan ku dheeraaday caawa in badan baan ku jiray aadna waxaan ugu caleysnaa nimanka nabar iyo naxdin la yiraahdo hadii aad awoodaan gacanta waa soo taagan kartaan hadii kala Soomaan waan idin macasalaameynaya insha Allah marka dhalinyaro far badan ba haday soo qabadhaysay إلا أي جماعة واحد ساق وير هذا مركا وأنا مع السلامين يا كلكا جبلان فيفا جبلان فيفا الصومالية من نما من تدي اسكتاشي صومالي وين ملك سيجوكتو شنطة صنهاي شنطة الصومالي أنا جبي ربطها يجبني مدون الله سهله نبض ماشي كبر عذا أمضى الصومالي إلو جب حظه عدة جعلنا بربرسنا هذا عذو وعذوجي أمضى الصومالي هذا قرنا وويانه وكنتي سيبا كبرو ريسا أو نحت الله في الصومالية يعني وكنتي فرماجة وكنتي ويانهوي وكنتو ويقولونتا حلي جاده هتاي دافتو وكنتي ويان وكنتي دقاق ويانه الله سهله أيا في فرماجة في حمر هتا تالله إن لقرحيه ربتا وقولون كذا ومطل لقاقه الله سهله فرماجة وقولون هدعو فرماجة هدعو عن نظر ينحذن ومطا هوبنا يان ومطا الصومالية نهمدوبان كمعها هايس قبصدان شنطو هايسو تيماعدو الله سهله جاي جيسكا أفريكا بها الله تاليو وريتوبيا ميلبان كاسو هارناي الله سهله كينيا وانا من كاستنك واوينو واتقانا الله سهله يقولون وحوا نفكرنا هنا إذنكو قبل ماذا الرادية متبايد حقا يسوقوا محمد خليفة كسب بو صاحب كسب لماذا يا من تتكايس كتشجع على لو باهي الله سهله أنا وهو كسوي توبي ودكات مرت كأكين سيلاين نقعد كوكستو دب قولي توبي هلا كسر واكو سلام هالجمع وان كاقا ولا الله سهله الله ما شاء الله برنامج في عمد كهلا الساعة أو كسابسن جبلان هذه سومالي وين ونبض هي النبر ينحدن الله سهله والله عبد الحكيم عبد الحاجي نمر نحن وجد محل ليه جري رفشاد قدام بيسيب هذا مريسا أو عباد كده قدام بيوضع لو وضع مركو مارتي قفكو مركو بربرة يو على يو خنيس للصدري يو قرو والبا ماشي لها يا ورده قليل هذه ولا خنيس هذا لكن معاكو كلفي خنيس هذا للصدري يو أو باصو بارمان كنا فدي والله ده وح أيها الناس بس إسكاه بس ما هده وح خمرة عبسن إيو وح ما دروغة سو استعمالي إيو وح يا سوقين إيو وح نظام سبه هده ماشي ما يجاب كيني كربا وحال كربا أخلاقي الدين لمن ما كيني كران سوما هذه هذا لكن سوموغا إثيوبيا إنه ويانا بنت سوموغا وكنت سيبا قاعد حمرة ما أيها لو مش شيء ما هو أيها وحي موضة يا ولي تقرأي أوديه حوكة بنا جيس كافريكا هستين ماشي أنا كحتى اليوم ملانا يا ولي سيدي قلبي لو ما وشيء ما قلب دقيق لو دي بواجي ما ولي كوقفلنا وحس لين شو رجع قلب دقيق حود ديبتين أيها ترى مركا وطن كيبا ما هو جبا إنا محل اللي جري قليلا سومالي قبلنا فلسموغا
ONLF iyo inay ka taliyaan iyo maxaa la dhihi jiray iyo xisbiga OLF inay ka taliyaan maba ogaba ها gobonimo doonka baa ka taliye kow ha Oromia iyo Soomaali galbeed baa tahay Ogaadeniya inay mar hore inta isbahayseen dalkii qabsadeen oo ka taliyaan ma oga iyagu looma sheegin aad iyo aad marka waxay waa rafashadii u dambeysay Etoobiyadii dagaalo meel inta iskaga qaado dad soo qabsan jirtay ma jirto sababtoo hadda waxaad arki kartaa Tigray oo kale soo qabanaya walaal Tigray oo kale hadda waa maamul oo state ah soo maaha Tigray hadda iyagiiba cuno qabateen galebe waxna uma galo waxna kama baxay maya Tigrayga hadda waa maamul laakiin dawladdan hadda ay iyagu leeyihiin wax noo soo qabo Soomaaliya wax ka soo qabo oo maamuladaas maxaa la dhihi jiray noo weerar oo nabadda guri ay ku leeyihiin may Tigrayga goostay halka taagan ciidamada haysta militariga la wareegay dhaqaalay qaatay maxaa jira hubkii haysta dawladda dhisan dawladda hadda federaalka Itoobiya ay gali weyday may kuwa inta ciidamada loo geeyo maalmaha horta noo soo qabta ma iyagu soo qabsadaan kuwada aad iyo aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga oo soo koobaysid maxaa u jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ba la sahla adoo isku duubaya guud ahaan ummadda goobta ee Soomaaliyeed gunta ka reebo wallahi anu waxaan leeyahay qolyahan gunta ee dafila Soomaaliya isku urursatay dadka khiyaantay maxaa la dhihi jiray kolba nin soo tuuraysa lacagaha maxaa la jiray maamuladii loogu talagalay ku fatahaadayaan oo meelaha ma aragtay leh orday ku qeylqeyliya oo dadka khamrada ku cabadhaya ku tunta dhahaya anu waxaan leeyahay dadkaas waxay idin soo wadaan malaha ma la raba nabadaas inta yartay magaalada ee nabadda ay ka dhigeen maxaa la dhihi jiray Jubbaland nabadda ka jirta ma rabaan waxaa la rabaa in meesha la isburbursado sidii la yaqaanay isbaaradii la dhigto la isceyrsado dadku iska dhintaan guryaha lagu kala cararo hooyada dhimato aabaha dhinto meesha la isku rafaaday rabaan taasna macnaheedu ma dhacayso hadda waa laga tabaabustay ciidamadii hadda wadanka la wareegay ayaga hayaan Jubbaland waa nabad dhibka ma jiro doorashada waa dhici madaxweynuhuna haddii ilaahay ugu talagalay uu soo noqon hadduu soo talagalina musharaxiinta hadda saxiixday unbaa macnaheedu mid kamid unbaa la wareegay wax dhiba hadda ka jirana malaha arrinta Jubbaland baan ka hayaa buu leeyahay warbixin saafi ah muwaadin aad baan ku salaamayaa fikirkaaga saleemka oo ku maasan tahay asxaabtana ma soo qabanaya iyagana haye walaal haye aad iyo aad maasan tahay Faadumo ku soo qaban doonaa Cabdixakiin adna ku soo qabanaya Cabdixakiin baa horeeyo ka dal wariyaha Haashimow yiraas walaale Cabdi ku soo boodina Cabdi Xaaji Axmed Haashimow waan ku soo qabanaya laba daqiiqo ka badanina insha Allah khadar sidoo kale waxaan soo qabanayaa waraaweyde way kala yaaceen waxaan soo qabanayaa away gabadha magaceeda muxuu ahaa Faaduma Jaamac ay ku soo boodin adeer ku soo yaraha bood السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. آد بنكو سلام يا. هل قام صحني هنولادو أديركي والله ويقو حبويا. وقاعدين يحروا. سومالي هنولاتو دهون هل قام هو شخصي. سومالي هنولاتو. إلهي أفتاق عنا كقبي. إلهي ظالم كهنجا قبته. شعبكي سومالي وو بابا حمر وي بابا أضي إلهي بيلاضاي إلهي با أوكي ودخصاد حمر تاجرة حمر عاوية رجي سومالية ده مقع لها ماي رجي سومالية ده رجني مضى لها ماي رجي سومالية ده حمر وتلينا يا ماي محايدن هلاي ودن كينها قاتشية شبلان هنولاتو شبلان وي إسراعدي شبلان وامد ويان وقادين يا وي إسراعدي سوماليا وي إسراعدي halgamaaga u talin doona insha Allah Soomaaliya shantii Soomaaliya insha Allah soo noqon doonta Soomaaliya qalbi dhagax baan soo wadnaa haduu xamar ka tago way farmaajo qalbi dhagax baan keenina Allah taala eegaynaga Soomaaliya u talayna waayo Itoobiya meel baan saarnay Soomaaliya gobonimo doonka u talin doona insha Allah Cabdikarim Sheekh Muuse adeerka Ilaahay insha Allah cimrigiisa ha dheereeyo xaqii baa imka soo baxaya Soomaali dhibaato way ka bixi doontaa
soomaali إن شاء dhibaato way الله ka bixi doontaa insha allah biidni illah ilaahay faraj degdeg ayuu u furi doonaa dhiiggaa soomaaliyeed ee daadanaya hilibkaa soomaaliyeed ee daadanaya raalli kama nihin soomaali raalli kama aha soomaali waa la kala dilay waa la baabi'iyey waa la kala jeediyey ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu daalimiinta ka xoreeyo oo ilaahay daalimiinta ka xoreeyo oo ilaahay wixii dhintay ilaahay u naxariisto naxariistii janno geeyo oo ilaahay shacabkayaga caawiyo ilaahay shacabkayaga ha caawiyo ilaahay soomaali galbeedna halgamayaasha daacadda ah ee ilaahay sharafta iyo karaamada siiyey inay waaraan oo cumrigooda dheeraan oo wadankooda xoreeyaan ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa fiifa xamarey waa lagu soo socdaa xamarey laguma iloobin قول يا قبل ما ندير رجينا يا هدي لها ينادو aad baad u mahadsantahay faadumo aad baan ku salaamayaa insha allah هيا ما صنت وصلت فكرة فاضمينا aad baad u mahadsantahay allah musta'aan waa gunaanadkii barnaamijka wariya cabdixakiinow hadday intaan kusoo qabto halkan sashay boosaaso waan kusoo socdaa brother qabso cabdixakiinow walaale السلام عليكم صح waan gartay cabdixakiinow soomaaliya guud ahaan badbaaday u baahan tahay jubbalandna ninkii farmaajo ayagoo ku fashilmay allah saale askari etoobiya soo adeegsaday waruu yaacay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin daawadayaasha sharafta qiyamka iyo xadaaradda mudanow kob kastood joogta anigoo ah walaalkii halgama saxane kobtaasaan idinka salaamayaa iyo beejka shabakada awaare beej goor kasta oon joogno waxaanu u joognaa ilaahay nasrigii difaaca ummadda soomaaliyeed iyo guusheeda iyo guusha gobonnimo doonka waxaana ka soo horjeednaa cadow kalkaalka iyo shisheeye kalkaalka iyo dabaqoodhiga dhuxdhuxlaha iyo afmiinshaarka iyo caadaqaataha iyo kuwa khaniisyada keena allah sale ha dhacan farmaajo ha dhaco allah sale xasan khayre ha dhaco etoobiya ha dhacdo waxaa weeyaan dhuxdhuxluhu ha dhaco dabaqoodhigu ha dhaco guulaysta soomaaliyey kaca oo gamcays wada qabsada jubbaland ha jirto oo ha joogto dhiigganagaa ku shaqeeya jubbaland adar la sahle nabad baa ka dhalatay jubbaland baanu nahay geyiga soomaaliya oo dhan baa jubbaland soomaaliya oo dhanna waa nabadday jeceshahay nabadeedu jubbaland bay taallaa meel kale maanta ma taallo ogaadeen iyo ama soomaali galbeedna eegay ka dhalatay etoobiyaankiina eegaanu sii kala baxaynaa nfd iyo waxaa weeyaan jabuuti iyo somalilandna waa nabad ilaahay nasrigiina xamar bay ku hadhay waxaana ragaadiyey farmaajo ha dhaco gobtii iyo abgaal ha kacaan habargidir ha kacdo dadka xamarawiinta ee ku dhaqan geyigu ha kacaan wargooyin gilgisha oo gunta iska dulqaada gunta farmaajo iyo khayre iska dulqaada gobta iyo dhiigga soomaaligu ha shaqeeyo argagixisadu ha dhacdo argagixisadu waa farmaajo iyo khayre ha dhacaan cid kale ma ahan ha dhacaan kuwa madaxda qarxinaya waa ayaga ha dhacaan afduubtu waa ayaga ha dhacaan khayre adeerkii waa kan haysta al-shabaab ha dhaco waxa weeyaan wiilkan qaxootiga kusoo bidaaraysay ha dhaafo meesha guulaysta guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaya ummadda soomaaliyeed gobtaa alxaqu liman sabaq baa layidhi qof kasta gartiisa la siiyaa jubbaland halkaa waxaa soo gaarsiiyey axmed maxamed islaam axmedoobe iyo shacabkiisa iyo ciidankiisa abaal baan u haynaa wax kale anugu jaab dadkuma ammaano waxaa weeyaan dhaqaalana dadkuma ammaano anugu wadaniyad iyo soomaalinimo ayaa naqaana wax ku ammaanaa weligay shilin kuma shaqaynin sidaa darteed waxaan ku ammaanayaa jubbaland axmed madoobe intuu hayay nabad buu ka dhaliyey deegaanka jubbaland allah saale nabaddana waa la diidan yahay cidda diidanee geed dheer iyo geed gaaban u fuushana waa nabar iyo naxdin iyo kuwa etoobiya naga iibsanayay ilaahay ha ka qabto ummadda kuwaas shacabka soomaaliyeedna jubbaland iyagaa iska leh nabadgelyada jubbaland inaad ka shaqaysaan maslaxadina ku jirta haddaad isku daydaan waxaan fayriska ee uu wado ninka kan waxaa nabar iyo naxdin labada shacab ee xagga iyo xagga idinka xigayba waa soomaali galbeed iyo nfd nabadda jubbaland ishay ku hayaan waa la arkayaa qaska waxa ku wadaayina waxa weeyaan nabar iyo naxdin maslaxada soomaaliya inay wadinna waanu ognahay sidaa daraaddeed labadaba shacabkii soomaaliya qaxootu meel kasta ku yahay waa lagu dhibaataysan yahay dhibta in laga baxo
jubbaland oo nabada xamar nabad laga dhigo ayaanu u soo soconnaa ilaahay nasrigii marka nimayo noogu sii simaan idin leenahay intaanu soo soconno eenu idiin soo soconno koonfur noogu sii siba ayaan leenahay iskana sii qabta nabar iyo naxdin ayaan leenahay shacabka soomaaliyeed jubbalandna nabadeeda ha lagu ixtiraamo dadka waxa weeyaan laga ronayaasha ah oo tiifiyada lasoo fadhiisinayana arrimaha faraha kala baxaan intaana fadhiga loogu imanin hadday al-shabaab ay runba tahay khaniiskaasay dili lahayd hadda khaniiska lama dilayo khaniiska kuwa aan khaniisyada ahayn baa la laynaya laakiin khaniiska la dili maayo waxaad ogaataan meesha waxa ka socda nabar iyo naxdin ay wadaan hada wabilaahi tawfiiq اللهم هل بلغت شعبكayga waxaan u rajeynayaa Soomaaliyeed midnimo mintid iyo isku tashi iyo dhuxdhuxlaha af minshaarka oo la iska qabtay dabaqoodiga wabillahi tawfiiq waa inoo live-keena dambe iyo qabtay ka caga tagtay eega Jubbaland baa guuleysatay waxaana laga guuleystay ukuntii wayaanaha laga guuleystay Allah sahal ukuntii wayaanaha ma ahan Soomaali de ragan nabar iyo naxin Soomaali maan waa ukuntii wayaanaha oo ismooday Itoobiya inoo soo xabasho u qayshaday وحبا أنك إيجا كأذى قوتلنا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته